السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. مرحبا أهلا وسهلا بجميع الضيوف. waxaan halkan ku soo dhaweynaynaa martida sharafta leh, akhyaarta, culimada, ragga mas'uuliyiinta, xildhibaanada, dhalinyarada, odayaasha, nin walba waan soo dhaweynaynaa. waxaan ugu soo dhaweynaynaa masaajidkan maanta aan furayna yaan ugu soo dhaweynaynaa. nin walba waxaan ku soo dhaweynaynaa maqaamkii sharaftu leeyahay ayaan ku soo dhaweynaynaa. waxa laga yaabaa inaan dad qaar aan sheegi wayno magacayaashooda, laakiin ha ogaadaan inaan qasad ay naga ahayn waan gacmo furna ayaan ku soo dhaweynaynaa. walaalayaal, xafladan maanta oo ah 23 bishii May, masaajidkan xaafadan South B ku yeelo statekan Diamond ayaan iskugu imaanay inaan ka qayb qaadano. farxadan inaan ka qayb qaadano oo masaajidkan la furo ayaan ka qayb qaadano ayaan iskugu imaanay. inta masaajidka la fadhiyona nin walba insha Allah ta'ala haniyeysta i'tikaaf inuu masaajidka Allah subhanahu wa ta'ala gurigiisu fadhiyo ajir haniyeysta insha Allah ilaa salaada duhur aan joogi doonaa. intaas oo waqti badan haddaan niyad la hagaajiyo. walaalayaal, programkii aan galaynaa insha Allah ta'ala. programkaas uu noogu taxan yahay waa sheegi doonaa. waxaan rabaa dad qaar inaan magacayaashooda xuso noo fadhiyo meeshaan. uu hogaaminahaya walaalkeen xaaji aadan barre ducaale, xildhibaanka Soomaaliyeed oo Soomaalidan MB-gu ayaa xafladda maanta guest of honor nooga waxaa kaloo noo fadhiya sheekheeni sheekhi Kenya, Sheekh Maxamed Cabdi Umal, isagana noo fadhiya jazaahu Allahu khayran. waxaa kaloo noo fadhiya suldaanka beesha weytaan alxaaji maxamuud khaliif ayaa noo fadhiya. waxaa kaloo noo fadhiya dad fara badan oo culimo, dakaatira, Dr. aadan sheekh cali, imaamkeeni weynay masjid jaamic sheekh maxamed saalixu, Dr. ismaaciil, rag fara badan dakaatira, sheekh maxamed Dr. maxamuud udugow, Dr. maxamed xasan, rag fara badan oo dakaatira noo fadhiya. kulligeen waxaan leenahay qofka magaciisa xusniyo qofka kale walaalayaal soo dhawaada. intaas waa tan Soomaaliga. waxaan rabaa inaan laba kelmadood oo Swahili ku daro. ndugu tunawakaribisha kwa hii miradi ya kuzindua hii misikiti ambao iko hapa South B kwa hii estate inaitwa Diamond Park. tunataka kuchukua fursa hii kumkaribisha kila mtu ambaye alipatiana wakati wake kuhudhuria hii hafla ya kuzindua hii mradi. nataka insha Allah taala pia nichukue hii fursa vile nilitaja majina za wandugu zetu hapa Mongolia, MPs, mashekh, maulamas wa vijana barbaru, kila mtu tunawakaribisha. So nataka nianze program insha Allah taala ya msikiti ya hii hafla yetu ya leo, nikianza na kufungua na ayati min al-Qur'an al-Hakim ambaye anatusomea shekhi yetu Sheikh Ahmed, imam misikiti wa 6 Abu Bakar ibn Siddiq ambaye iko 6. marka insha Allah program kan oo bilaabana waxaan soo dhaweynaa walaalkeen Sheikh Ahmed, imaamka Abu Bakar ibn Siddiq oo xaafad Islii ku yeela soo noogu furo aayada Qur'an. falyatafaddal mashkuran maajura. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. اللهم اجعلنا من المهتدين. صدق الله. جزاك الله خيرا شيخ أحمد. هذه ضمن سنتهاي إن شاء الله برنامجك حنوس عندنا إن شاء الله تعالى سيد صوص عطو رجع علماء أيام كلمات سين دونا إن شاء الله ماشي هدي وحنسوي معني وحفلة مساجده ودينتي الله سبحانه وتعالى ومبالس حسوسين دونا هدو إلهي ما يدهن علماء نوهل دونتا كبعد نحنوحي دونا بقين حلبانا نصود دورا إن شاء الله تعالى كبعد نحنوحي دونا مهد علن ومهد علنا يا سلطان محمود خليف كبعد وحنوبحينا إن شاء الله تعالى قضدي أيانو بحينا إن شاء الله تعالى إيه مساجدك فريتانك أوفيشال كلوفر لا أيانو بحينا إن شاء الله تعالى وقت كان هذا وعشان ساعة إيو أفرتن إيشان أما كوبي تون أفرتن إيشان وهاي إن شاء الله دور هنا كنت كنا وقت جيسة تدوس عي روع إن شاء الله مركو حنقعد سنة يا يوم البون ميكروفون كان سينا إنه إن شاء الله تعالى أصلا وركيس عن كلا تجين إنه صوكوا أنا وقتي قعدنا وإلالي نحرر هنا كسر دوية الميكروفون كان أديبه أنت أديبن أتكلم سام program vile itaendelea إن شاء الله program itaendelea tunataka kuinvite kuwaita mashaikh wakuje hapa إن شاء الله watuambie na waseme kuhusu inshallah taala mambo za dini inshallah, and then pia tutawaita wandugu wetu waheshimiwa kutoka bunge la taifa pia wakuje pia wa contribute pia hawa tusikie maneno yao because they are our leaders. Pia tunataka kusikia remarks zao inshallah. So nataka niite, naomba fursa hii kuchukua inshallah before kabla sijachukua hii nafasi kumita Sheikh Ali Nur nuhan rabi inta Sheikh Ali Nur u yeerin inaan introduce garay masaajidka imaamkiisa la Sheikh Muhammad Aadan Bashir saygan u jeedin ninka imaamka noogu noqon doona insha Allah taala umsaayka de san ognahay waxa mas'uul ka ah imaamka qofka dhisay masaajidkan markuu dhisay inuu ka taga laga yaabaa laakiin qofka masaajidka gacanta ku Sheikh Muhammad kaali umada salaam sida lagu arko insha Allah. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وما سنتهن جزاكم الله خيرا. السلام عليكم. waxaan kaloo ilmaamay inaan soo dhaweeyo inay joogaan ma maleeynin laakiin hadda ayaan isheeday ku dhacday gabdho walaalaheen dumar ah ayaa qaybta kor saaran ayagan waxaan leenahay soo dhawaada waxaan islaaynaa markii hore rag un baa masaajid meeshan loogu tirigalay naga raali hadda markii hore soo dhaweynta hore naga hilmaanay 114 raali ku noqda idinkan mar labaad waan soo dhaweynaynaa mar waxaan rabaa fursadaan inaan ka faa'iideysto aan u yeero sheekheena Sheikh Ali Nur Maal Ismaaciil inuu kelmada noo jeediyo. مساجد كشيخ محمد سؤال في عنها يويدي مساجد مقعي ويقول هاي شيخ مساجد هذا مسجد وحالة دها دايمون مقعيس إن شاء الله تعالى وفيشل كه
guddigun baa u tashan doona marka masjidul aqsa ayaa loo bixiyey masaajidka marka hore laakiin waxaa noola sheegay masaajidaha magaalada nairobi ku yeela ina magacaas la dhahaa oo xaafadda burhaan state ku yeelo maadaama marka magacaas marka hore akhyaarta masaajid gacanta ku haysay soo propose garaysay laakiin masaajid kale uu magacaas u lahaaday marka insha Allah waxaan rabnaa masaajidka hadda maanta aan furayna waa masjid diamond كوميتيدا أو فديسن دون تو مجا official وبحين دون تا مارك جزاك الله خير أنت شيخ محمد وكما صنت هذه حزوز سي شاعل نور تفضل جزاك الله خير الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلهي بمهد إسكال سبحانه وتعالى حفلة كريمة وآد وقيمها بدن وإلهي أكتيس الرالي لوغي هاي إنان كسو قيب قلنو سيدي وهرو الشيغي وللكين القاضي شيخ مختار سو ونوغ الشيغي علماء شيخ مختار بلو أيا سلامتي مدحدة إيا علماء دكاترة خيارت هلك اسكو تمي ضمانتود نو isaga ayaa noo hormariyay salaanti sidaas ay noo tahay waxaan marka insha Allah taala ku soo dhaweynayna kalimaadka soo hor u sheegay wuxuu yiraahdaa la soo gagaabay sababtoo dadka culimada way fara badan tahay sharafta rag badan oo halka yimid oo ugu horeeyo speaker-keeni ama madaxdii Soomaalida walaalkeen Xaaji Aadan Ducaale Soomaali waxay tiri qorrax jeer oo dhacda waxay ku tursan tahay lama ogaado tiir ayuu noo yahay ilaahay ha barakeeyo darajadii hadduu hay madkiisii weyn ilaahay baan ugu baryaynaa subxaanahu wa tacaala maantana waxaan u malaynayaa wax badan buu oo dhayirahe meeshii ugu qaybaha badneed oo dhar wax badan buu yiri oo dhaaye meeshii ugu qaymaha badneed hadduu fadhiyaa oo masaajid ilaahay subxaanahu wa tacaala oo la furaayo uu u yahay gees ufoona soo dhawaaw muxushmuha soo dhawaaw waxaa kaloon soo dhawaynaynaa muxushmayaalka kale oo halka fadhiya suldaanka beesha weytaan waxaan arkahayaa muxushmuha bashiir muxushmuha cabdi muude muftigeena sheekh umal sheekh maxamed sheekh cusmaan doctor sheekh maxamed sheekh cusmaan sheekh cabdiraxmaan dawiil macallinkaygi doctor aadan cali imaamkeena sheekh maxamed saalax sheekh maxamed tunaomba leo iko watu wengi wa Somali tunaongea Kisomali kwa hivyo hata wewe pia hata wewe pia leo Msomali lazima ujue Kisomali insha Allah taala imaamkeena naftiisa sheekh maxamed saalax oo imaamka jamiica mosque halkaan u fadhiya aniga maanta warkayga waxa weeyaan leeyahay inaan u duceeyo raggii masaajidka nuurka badan noo dhisay inuu ilaahay miisaankooda aakhira ugu kabo firdawsana ku geeyo waalidiintooda ilaahay ugu naxariisto camalkoodan khayrka eena kii ilaahay subxaanahu wa tacaala khaalis ilaahay ugu dhigo jannaatul firdaws ilaahay ugu bishaaree ragga halka iskugu iimaandir dambigooda dhaafa intaas ii soo dhaweyn baan aniga leeyahay maanta wax kale ima furno rag culamo igu waaweyn khiyaara jooga jazaakum allahu khayran wa barakallahu fiikum wa sallallahu ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in جزاك الله خيرا شيخنا شيخ علي نور مع الإسماعيل خير الله كرسي وما صنتهاي شيخ كرسي جيس على كيرا كرسي على صبت الشيخ وما صنتهاي وحنكون حجينا شيخنا شيخ حسن عبد السلام نواصل إن شاء الله تعالى كلمات يرد والنصيب تفضل شيخ حسن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بعد. إلهي سبحانه وتعالى أيام هذا إذا الإسكالي الله إسوكا إن كاني أفضل بقعة ومحوها إلهي سبحانه وتعالى بيت كيسة إلهينا سبحانه وتعالى أنا وكرجينينا مساجد كان قرحه بدن أو نوع عنه نبينا صلى الله عليه وسلم وير هذه من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة رأيت كلنا أي هد إذنا ولو مفحص قطعة لبيضها نكي مساجد إسه إلهي سبحانه وتعالى
wuxuu u dhisaa asagana guri jannada ugu dhisaa kan nala qurux badan annaga waa kan alxamdulilah saan quruxda badan oo maa sha allah dadkii dhisay ilaahay subxaana wa tacaala guri aad ilaahay dhisay oo jannada dhexdeeda ka dhisay allah ugu bedelo sida uu xadiidkaba uu noo ishaaray nabi sal allahu alayh wasalam gurigan ka qurux badan boqcadaanaydi ka sharaf badan oo jannada dhexdeeda ah ayuu ilaahay subxaana wa tacaala ugu dhisayaa guri ninkii muxuu ahaayey guri sidaa oo kale dhisa taasna ilaahay subxaana wa tacaala waxaan ka baryayaa inuu ilaahay ka aqbalo dadkii noo dhisay masaajidkaa noo dhisay ilaahay inuu ka aqbalo waxaadna ogaataan camalka markii la sameeyo waxaa laga dabageeya had iyo jeeraalo sida ramadaankaba la yidhaahday muxuu ahaayey haddii uu qofka ramadaanka markuu sooma kadib dadka waa wanaagsanay 6 biloodna ay ilaahay subxaana wa tacaala ilaahu naga aqbal dhihi jireen 6 bilood kalena ay dhihi jireen ilaahu na gaarsii marka qofka camalka markuu sameeyay saa oo kale masaajidka u dhiso inuu haddana ilaahu iga aqbal inuu ku dadaalo oo had iyo jeeraalo maxaa yeelay haddaa laga aqbalo waxaas helaa weyn jannada dhexdeeda marka jazaakum allahu khayran culimmadii wada joogtaa akhyaartii wada joogtaa inaan dheereeyo ma raba kaliya waxaan u ducaynaynaa ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaad ogaataan qofka markuu ilaahay barinaayo ihdinaa siraat almustaqiim uu leeyahay waa waddo kasta oo wanaagsan haddii ilaahay kuga hanuuniyey masaajid inaad dhista iyo meel khayr inaad dhista ilaahay hadduu kuga hanuuniyey waxay ka mid tahay waddadii aad ilaahay ka baryaysay subxaana wa tacaala meeqaa qof oo kan iyo ku kala dhisi karaysoon la waafajinin hadduu adiga ilaahay subxaana wa tacaala waddada masaajidka lagu dhisi lahay ku tusiyey waa inaad alxamdu lilaahi aad tiraahdo waddo wanaagsan ilaahay subxaana wa tacaala uu ku tusiyey waa waddadii ilaahay aad ka baryaysay marka waxaan rajaynaynaa ilaahay subxaana wa tacaala ninkii kasta oo masaajid dhisi kara inuu dhiso maadaama muxuu ahay masaajidka qurux badan oo ilaahay subxaana wa tacaala oo dhisay oo jannada dhexdeeda ku dhisay maadaama uu helaa jazaakum allahu khayran waa soo gaabinayaa asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا شيخ حسن خير بن الله كسي وما سنتهي وحيوحي كلمتي إن شاء الله تعالى شيخني شيخ عبد الرحمن طويل جزاه الله خيرا فليتفضل مشكورا السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وثناء الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قفك مسلم كما كان قال مركو سو استعمان توكله فرح فربنا بدريميا قلبي يسوي انشراحيا نفتي يسوي اد بفرحيسا إن الله كل مجوريها إلهي كميدة الله دسي oo muslimiintii xaafadan degmaayeen goonahana ay dhisaan oo guri aad loo qurxiyo wanaagsan ilaahay maxaan ka barayaa subxaanahu wa tacaala in uu ka aqbalo camalkaas asaga nabi ibraahim iyo wiilkiisa ismaaciil calayhim assalaatu wassalaam markay dhisaan kacbada hal ducay sameeyeen rabbanaa taqabbal minna innaka anta samiicul caliim ducadaas ay sameeyeen marka maxaan leenahay nimankii dhisow maxaad ku ducaysateen daa'iman ilaahow naga aqbal oo ha nugu soo celin tan labaad meel kastoon joogno masaajidda waa inaan dhisnaa inkastoo jiraan ummada maalmahan masaajidda la dhisaa ka soo horjeedaba laakiin maxaan leeyahay nin kastoo muslim ahow markaad fursad hesho shalay maxaan isweydiinaya annagoo xaafad soconno xaafaddan masaajidkan salaam iyo masjidunuur looma dhexeeyo waxa deganna 9% waa muslimiin nin kastoo soomaalina muxuu ku fikirayaa boos 50/100 intuu qabto 10 daba ka dhiso war 50/100 intaad qabata masjid ay muslimiinta guryaha dhisteen ay ku soo tukaan ka dhiso si adiga guriga jannada ugu dheer lagu dhiso guriga jannada u weyn aad u hesho nin walba ku fikir qiyaamahada intaan qabriga lagu geeynin wax la qadimo ilaahay la hortaagna masaajid baa ugu fadli badan ballanqaad ku haysa maxaa weeye qofkii dhiso oo masaajid dhiso rasuulka muxuu yiri ilaahay baa guri janna ilaahay baa guri jannada laga dhiso guriga jannada laga dhisaa qofka bani'aadamka aqligiisu kuma soo dhici karo laakiin waa lagu soo dhaweynayaa bani'aadam hadda markuu magaalada yimaado muxuu leeyahay guri aan u baahanahay laakiin markaa jannada u socoto ilaahay jannada intuu ku geeyo in aad guri ka hesho jannada dhexdeeda laga dhisay oo masaajidkan kale uu sabab u noqdo
waa nasiib qofuu ilaahay jecel yahay uu siiyo marka maxaan leenahay ilaahayow muslimiinta garab u noqo meel kastay joogaan ilaaha muslimiinta cizeey ilaaha muslimiinta garabkooda istaag ilaahu xaqa u gargaar ilaahu ninka xaqa hor istaaga qoorta ku dhufo ilaahu ninka xaqa diyo aakhiri adduun bacdaab ilaahu khizdi adduunya ku aakhir iskugu dar wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا شيخ عبد الرحمن خير بن الله كسيه مرة وادي مرسد حاد دقا خيار خد نص وقال يسود هذا بروجرام بنص عدي وابلعبني فرب نص وقال شيخ عبد الرحمن نفسي صدق قال كي ما ذو كجري سود هذا الشيخ محمد العثمان دكتور محمد العثمان دي ودياشة عن المماداي the clock of the senate أو أي مقضية سنة نفسي اسمه شيء محمد علي سود هذا ضد كل سود هذا إن شاء الله waxaa igu xigay insha allahu tacaala rabo inaan kelimadan siiya دكتور آدم شيخ علي فليتفضل مشكورا مأجورا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلهي سبحانه وتعالى أيام هدسن اللهي ما أنت هل كان نقول كل ميي أنك أوتاغن كقيب قلينا كفر حينو إلهي سبحانه وتعالى قد دوانينو إن مسجد آدوين oo aad u qiimo badan oo goob istiraatiiji ah ummadda ay baahi badan u qabtay furitaankiisa marqaati inaan ka noqono kuna faraxno allihina waafajiyay allahaas ayaa mahadoo dhan iskala alxamdulilah uma alxamdulilaahi uma alxamdulilah mahaddaas alle kadib ikhwaani kiraam aniga afar eray ayaan dhihi rabaa insha allahu tabaaraka watacaala kelimada koowaad waxaan leeyahay raggii akhyaarta ahaa oo masjidkan u istaagay dhulkiisa gaday ama bixiyey dhisay oo hadda xaaladda uu ku sugan yahay iyo quruxdan gaarsiiyey ilaahay subxaana wa tacaala ha ka aqbalo ilaahayna subxaana wa tacaala ha barakeeyo runtii mahad weyn ayay mudan yihiin muslimiinta wax badan bay u qabteen waxaan leeyahay marka hanii'an lakum waxaad soo gelaysaan insha allahu tabaaraka wa tacaala nabigeena calayhi salaatu wasalaam ragga uu yidhi dadka waxaa ka mid ah mafaatiixa lilkhayri maqaaliqa lishar ilaahay addoomihiis waxaa ka mid ah dad albaabada khayrka fura albaabada shartana xira insha allahu tabaaraka watacaala kuwaas ayaad noqoteen suldaanka suldaan xaaji maxamuud kolleyba wax badan buu ogsoon yahayo magaalada mandheera oo saldhigga iyo beeska noo ah isaga iyo annagaba qayb ka mid a halkaan dadka fadhiyo mar aanan fogeyn oo hadda marka cumriga ummadaha lagu qiyaaso muddo aad u koobanna 30 sano iyo wax la mid ah 5 masjid ayaa ku taalay oo mid ka mid ah annaga iyo isaga isagoo nin dhaxaad iyo annagoo dhalinyaro yaryar ah aan ku wada tukan jirnay waa 5 waliba shanta ayadahna ay sunna ayna laga wada oogaynin waa masjidka qaadi muuse xaajiga uu yaqaana waa deegaankiisa hore meesha ahayd maantana waad u jeedaan mandheero kaligeed waxaa laga yaabaa 200 gudaheeda masaajid ku dhow inay ka furan yihiin intooda badan ama 99% sunnada iyo kitaabka Allah subhanahu wa ta'ala laga oogay runtii markuu qofka xaaladaad soo maray shalay maantana halkaas uu jooga walina alxamdulillah caafimaadkiisa iyo noloshiisa iyo maskaxdiisa iyo ay kaamil u yihiin adduunka ayuu janno ku galay ilaahay subxaana wa tacaala tan aakhirna allahna siiyo qodobka labaad waxaan u jeedinayaa imaamka masjidka loo dhiibay waa walaalkeen ardaygeenna jaamacadda raaf imaamka ka ahan jira masjid ku yeela imaamnimada ugu horreysay ninkan maxamed aadam ama sheekh maxamed aadam waa nin la yaqaano qaari oo muqri ah oo runtii ahlu dacwo ah intuu jaamacadda jooga ardayga u ahaa nin culimo ayuu ahaa ee ma ahayn nin arday caadi ma ahayn marka waxaan rajaynaynaa insha allahu tabaaraka watacaala masjidkan inuu noqdo manaara lilcilmi masaajid badan lagu tukadaa mawlaci badan lagu tukadaa hadda guri kastoo la dhisa mawlaca laga samaynaya laakiin waxaan u baahanaa meeshaan inay noqoto meel culimo soo saarto oo diinta ilaahay subxaana wa tacaala dadkii sii wadi lahaa odayaashii iyo culimadii way socdaan dadkii soo wadi lahay diintan oo dhaxli lahaa oo irtigan qaadan lahaa meel ay ka soo baxaan ay noqoto ayaan ka codsanaynaa sheekha iyo tiimkiisa qodobka kale waxaan u jeedinayaa culimada
culimada waxaan leeyahay qurru anfusakum acyunakum ilqabowsada waxaa laga yaabaa ninka sheekha ah weliba uu joogaa dadkii ayuu muxuu ahaa diinta gaarsiinayaa mararka qaar uu isdhaliilayaa laakiin waxaad ogaataan khayrkan maanta samaysmay oo culimadan iyo akhyaartan hadda iskugu tagta ay sameeyeen waa carabkiinna iyo dadaalkiinna iyo cilmigiinna iyo kelimadiinni iyo boorintiinni iyo garab istaaggiinni aad samaynayseen iyo allabaryadiinni wax ka dhashay waa sida dhabta ataa weeyaan bilaash kuma imaanin dad badan aad uma fahamsan arrinta iyada ah hebel baa masjid dhisay hebel baa madraso dhisay mid baa jaamacad dhisay la iska leeyahay laakiin say ku yimaadeen yaa ku booriyey yaa gaarsiiyey yaa jeclaysiiyey yaa daliilka u sheegay yaa uu yiri janno inaad ku gadanaa u sheegay culimada marka ayaga adinkana qalbiga iyo indhahaba qabowsada khayraadkan aad arkaysaan ilaahay adinku sabab idinkaga dhig bacd allahi tabaaraka wa tacaala qodobka u dambeeyo gabagabada ah akhyaaray waxaan idin leeyahay halkaa dadka isugu imaaday ama cidda maqli doonta qul bifadli illaahi wa biraxmatihi fabidalika falyafraxuu huwa khayru mima yajmacuun farxad kolleyba haddii la farxi in beyt alle oo noocan ah u dhismo farxadda dhabta tan weeyaan tan dhabta ah ta weeyaan rabbigeena wuxuu leeyahay subxaana wa tacaala wabashir ilmuuminiin bishaaraadka in lisugu bishaaraya oo qofka qalbigu kaga qabowsada ood weliba muddo dheer farxaddaas ay kusii jirto loo baahan yahay tana ka mid ah iyo wax la midka ah adinkana ku farxa hana lagu daydo walaalaheen hawshan ay sameeyeen waa hawl aan samayn karno dad badan oo ka dhaqaalo badan ayaa jooga oo laga yaabo iska dhimani ayagoon xataa qajaf aanan qabanin war fursad ha noqoto maanta in walaalaheen aan ku dayano intaas ayaan kusoo koobayaa waxaan ku gabagabaynayaa ilaahay subxana wa tacala masjidkan ha ka dhiga manaarata khayr wa cilm allah ka dhigo ilaahay subxana wa tacaala meel culimo aad u badan ay ka baxaan allah ka dhigo ilaahay subxana wa tacaala meel diintiisa laga koryeelo allah ka dhigo allah garab gala ragga u taagan iyo ragga muxuu hawshaan u istaagay iyo intuu istaagi doonto jazakum allah khayr wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته دكتور آدم شيخ علي جزاك الله خيرا كلمة ساعات ونكسن الله نوفع إن شاء الله اوكي هذا ما سنتي دكتور كلمة يقول waxaa iska lahayn la dhaha Sheekh Maxamuud Aadan Markooni sheekha uu naga cudur daartay asii rag kale culimo u yeernay geeriya soo gashay in aad wal taqaaniin oo dadka dacwada ka mid ah xaaji saaq gaabow nin la dhaha ayuu ilka geeriyay subxaan si accident meesha Mombasa road ugu dhintay inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala jannadu geeyo duceyn insha Allah maragaas ay wixii asagana meeshaas ayuu aaday nataka kuchukua fursa hii pia kukaribisha imamu wetu wa Jamia Mosque Sheikh Muhammad Salih pia kuja hapa tuambie moja na mbili insha Allah jazakallahu khair tafadhali karibu kidogo na microphone السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد ndugu zangu, ikiwa ni furaha yetu kubwa sana leo kuja kufungua msikiti huu mpya, mimi mazungumzo yangu nitatoa historia ya misikiti hapa Nairobi. Nakumbuka nilipokuja Nairobi 1968 mwezi wa pili, nikaanzisha madrasa yangu pale opposite Barakati Hotel tarehe 1768. Wanafunzi wangu wengi walikuwa ni Wasomali wale wa Kenya na Wahindi na ndugu zetu wa Arabu, majezani wote na wengineo tena. Wakati huo ndugu zangu, misikiti Nairobi mzima ilikuwa ni 11 peke yake. Ijumaa ilikuwa ni misikiti kama 4 peke yake, hakuwa na misikiti mingine. Jamia Mosque ilikuwa hata kule ndani Ijumaa pia haijai watu. Hivi ndivyo ilivyokuwa, lakini
sunna ikahuishwa kwanza. Marehemu shekhe wetu tukimwita Sheikh Boghson rahimahullahu ta'ala ndiye aloleta sunna hapa Nairobi, akapigwa vita, akaambiwa umeleta dini ya assalamu alaikum, akasema kwamba naam, sisi Waislamu tuamkuana kwa assalamu alaikum. Wale makhurafi na ahlul bid'a wakaleta kwamba hao umeleta dini ya assalamu alaikum, baada kubwa sana. Kwa mara ya kwanza ikabidi tuswali hivi kwenye kiwanja ya ndugu yetu mmoja pale Garissa Road, kabla Garissa haijaanza, kwenye nyumba yake. Kisha tukaamua kwamba Sheikh Boghson rahimahullah ta'ala akasema kwa nini tusiwe na msikiti wetu hapa Nairobi? Ndio msikiti wa kwanza ukajengwa 8th Street, Masjid Abubakar Siddiq. Akasimamia Sheikh Adam Garwen rahimahullah ta'ala, Sheikh Muhammad Hadi na shekhe wetu hawa wote rahimahullah ta'ala, na Sheikh Hassan Abdurrahman. Wakaenda Kuwait, wakapata donation kule, wakapata pesa kule, ukaanzishwa msikiti wa barabara ya 6. Kisha mimi nikajiwa na hawa mashekhe watatu rahimahullah ta'ala, nikajiwa na Ibrahim Joni rahimahullah ta'ala, marafiki zake kina Arnaudi na wengineo, na Sheikh Hassan Abdoko hapa wengine. Wakaniambia Sheikh Muhammad Saleh, lazima uweke darasa kwenye msikiti wa barabara ya 6 ya Kiswahili. Mimi nikaambia ndugu zangu, mimi sijui Kisomali, nitazungumza nini? Jawabu alonijibu Sheikh Muhammad, sisi Wasomali wa Kenya hatujui Kisomali, tuelewa Kiswahili zaidi kuliko lugha ya Kisomali. Hii ndio jawabu ya Joni na ndugu zake, lazima uweke darasa. Nikaweka darasa 1988, msikiti kumalizika hapo 1988. Nikaweka darasa baina al-Maghrib wal Isha miaka 6. Pia wakanijia tena hawa wakinajiri rahimahullah ta'ala kwamba niweke na klasi juu za kuwasomesha wao tajwidi na lugha ya Kiarabu. Nikaweka tena klasi juu vile vile Alhamisi na Ijumaa juu pale msikitini. Alhamdulillah, tukaendelea namna hiyo. Ndugu zetu walipokuja kutoka Somalia, Mungu mwenyewe asa antakrahu wa khairun lakum, imekuwa ni kheri kwetu sisi leo Kenya mzima kwa jumla. Alhamdulillah, ndugu zetu waliotoka Somalia wamekuja kutuamsha, wamekuja na jambo muhimu. Leo Nairobi tuna misikiti zaidi ya 250, zaidi ya 250 ndugu zangu. Neema, ya laha min neema. Isili kwa misikiti 4, leo kuna misikiti karibu 15 ndani ya Isili, mbali kwenye majumba mengine mswala tofauti. Ndugu zangu, hii ni neema kubwa sana, na Allah atawabarik ndugu zetu wote walitolea kujenga misikiti kila mahala. Tukiona shida, tukiona Nairobi imezungukwa na makanisa kila mahala, lakini wallahi leo misikiti ya watu ya tabu sana ndugu zetu Waislamu kuona misikiti imeenea kila mahala, kila mahala, na bado tutajenga na tutajenga na tutajenga insha Allah taala. Ndugu zangu Waislamu, ni furaha kubwa sana neema kama hii leo ndugu zetu kujenga msikiti kama huu na mingineo na mingineo na mingineo insha Allah taala, na hatutochoka insha Allah kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Mungu awabarik ndugu zetu wote waliojitolea kujenga msikiti. Mtume asema sallallahu alaihi wasallam, mwenye kujenga msikiti hata kama ni nyumba ya badi, nyumba ya ndege mdogo, hakuna msikiti kiasi hicho. Mahala pa kuweka mayai peka kujenga msikiti mdogo sana kiasi ya ndege kuweka mayai, hakuna msikiti kama huo. Yani na maana ukitoa pesa zako kujenga msikiti, hata kama ni mfuko moja wa simiti, hata kama ni mfuko 5, Mtume asema sallallahu alaihi wasallam, Mwenyezi Mungu anamjengea nyumba peponi kama ile iliyojenga duniani. Inshallah taala wenzetu walijenga msikiti huu na mingineo na mingineo, na tusichoke kujenga msikiti. Mwenyezi Mungu atawalipa inshallah taala, aieneze dini yake kila mahali. Wassalamu alaykum. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakallahu khair Sheikhana Sheikh Muhammad Salih kwa hiyo kalima
ambayo umetupatia. Naomba Allah subhanahu wa ta'ala na pia sisi tuwe wale wamechukua alladhina yastami'una alqawla wa yattabi'una ahsana. waxay u xigay barnaamijka insha Allah ta'ala soo dhaweynaa Dr. Ismail Director Amma Africa Muslim Agency in Kenya. Dr. Ismail, تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولكن أذن برد عالي أو ضيف نوئه مساجدك وأسيغا iyo walaalaheenna kale oo ambiyaalka mashaayikhta culamada odayaalka dadweynaha kale maamooyinka kulligiin waa nii salaama. midda labaad culamada khayr alle ha siiyo intii iga horreysay waxay sheegeen ilaahay ha nagu anfaco. fadliga masaajidka waan wada naqaanaa. qolada la baxdayna ilaahay inuu ka aqbalo oo ilaahay ugu bedelo jannada dhexdeeda meel ayaan ilaahay ka baryaynaa. wax fara badan oonan garani jirin ayaa hadda ay dadkeena barteen alxamdulilah. berigii hore annaka hay-adan ka shaqaynaa masaajidda waxaa laga sugi jiray dibadda in laga keeno. marka dadka walaalaheena oo xoolaha qabo inay arrintaa ayada intay aamineen oo ay xoolahooda la baxaan oo ay muslimiinta masaajid oogu dhisaan waa arrin zaa'id u wanaagsan. waanan ku boorinaynaa qof kasta ayaantan jiradan corona la dhaho ama jirooyinka kale oo faraha badan iyo dhimashada faraha badan oo rasuulka sala allahu calayhi wasalam uu tilmaamay aakhiru zamaan markii la gaaro haraj iyo maraj inuu jiraayo ayaa jiraan. xoolaha waxaad oga tegi ma laha. carruurtaadaad u malaynayso inaad oga tegayso xoolaha ha u malaynin inay jid wanaagsan ay ku bixin doonaan adiga ma ogtid. sidaa liajligeed masaajidda iyo meelaha madaarista oo diinta ilaahay lagu baranayo inaan ku bixinaa waajib naga saaran. taa ayada waan ku farxaynaa. wazaa'idaanan u leenahay qof kastaa waxa aad haasato hadda horumarso. ilaahay agtiisa geeso ma taqaanid wax kuu dambayni doono. waxaa dhici kartaa 1,000 shilin ama shilin aad oola baxda niyad wanaagsan iyo iimaanaad ku qabto inaad janno ay ku geyso. iyo hal kelimadeed. midda labaad masaajidda waan dhisnaa waxaa la rabaa in la tacmiiriyo. aayadduu noo akhriyey sheekhi noo furay إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله وبه إيمانا لو شرطي مركا إيمانك إنه إلهي نسيه أو المساجد التعمير النوم بوحينه وواجب مسارا وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخشى إلا الله. إلهي دراتزنا أولوان نوايا وأنا كينا ولا لهنا قدس وحكا دعايا أيكم مساجد السعودان لقريباي أنا كنا مساجد إمارة أيادتك الوكر إلهي مركا وعن كبرينا دتك قف كستا أو تقرني مساجد كصوحر مساجد قف كهدو كحرمو وحاكت أراني إن الألي أجر كهشو وأساقنا قف ونالسن نقطه ويحما يكون أحجرك صوبه أيانتم حزايد وبضتي ومر نحضن أنكر هيساني وإلهي نقع عافيي ضد بدن وميلها بتروز استيشمها قاد لفريستان أما وحياله حنحن فربنا تا أيضا وحنا غريبي كرؤون كأهين مساجد إلهي لي ماذو مرها 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله رسول صلى الله عليه وسلم رجل قلبه معلق بالمساجد والله قف قلبه سكحرين يوم مساجدك مركا هذه جار إنا كد ذا نتا ميدا كله ونودا دار ما ولا الله إن الله بحي مساجدك
masaajidka iyo masjid kasta waxaan ooga baahanay duruus in lagu akhriyo madaaris in laga furo ma aha darsiga sheekha inuu akhrinaayo tafsiir iyo xadiid iyo keliyaan ku koobin dadkeena waaweyn oon soo baranin qur'aanka waa looga dhex furi karaa inay ka dhex bartaan masaajidka dhexdiisa kitaabka ilaahay in lagu baro si ay u akhrisan lahaayeen qur'aanka keliya dad badan oo annaka naga mid oon qur'aankii garanaynaa jiraan tafsiirka ilaahay aayad suuradda faatixada oo qof kasta oo annaka naga mid uu akhrinaayo tafsiirkeeda haddaanan garanaynin iyo macnaheeda iyo suuraddu imaamka nagu tujinaayo wax badan baa naga maqan marka taa ayadana waxaan ku baraarujinaa sheekha loo magacaabay halkan iyo mashaa'ikhta kaleba in duruus laga bilaabo masaajid kasta taa ayada carruurteenna tarbiyadooda iyo maamooyinka iyo annaka weynba wax badan bay naga sixi midda kale nadaafadda masaajidda inaan ku iltisaamno masaajidda markii la yiraahdo jiraa jirtaa ama wax baa jira ama arrintaa hala sameeyo annaka nafteena inaan ka bilaabno weeyaan oon samayno haddaan samayni wayno masaajidda in la xiraa ka imaani oo qawaaniintii la raaci waayo taana inaan u baraarugsanaano weeyaan hadalka ma sii dheeraynayay khayr allah haniisiyo janno allah idinku bedelo wa baaraka allahu fiikum wa shakara allahu sacyakum wassalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته دكتور إسماعيل خير الله قصية عندنا شيخ يقول حاجة نويين إن شاء الله برنامجك ونقبقبوها أيوة الصوت لمين هينا أدونك موقتها علماء الحيدة ما لا يدرك كله لا يترك جله أدونك هذا ماشي مرة مساجدها وحاواي ماشي بربار كالغو أروريو يورالي يوروبي دولك مركز تكتيد وحليها بيس عرور يعني بعد عصر يمكن سكولا ذاك المساجد فريضة كيس حلو بري عشرة قرآن قرآن والله أنا بقول لي أبيجي نحس يعني أنا دكتور صوتي قلني 10 ونص آخري قرآن ونص آخري مركب بعدها ويسقول قال أسقول اللي قال إساس نص سعودي مركب طبعا هذا كينيا وحكوا تاس طبعا كينيا هذا إزبدلها برباركي وإزبدلها هنا مركب دون كل رصعده وعروتي المساجد روحها أرنتها سعولي إمام إيو ضدك كوميتي المساجد كا استيد كان استيداد كان عروت لويرة دروس يرلسية مساجد لوح مرة بوسك دينان على جسم مسايب هو حرمان مرة أرنتها سوارن آدو مهم سنو حيسو حسوسي دكتور إسماعيل جزاه الله خيرا حنصود ويننا شيخ الشيخ محمود شبلي صود هو شيخنا جزاك الله خير كلمة هذا قلت حسكله دكتور شيخ محمد شيخ عثمان تفضل مشكورا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وهرين ما هذا أردن إلهي بأسكاله سبحانه وتعالى هو المنعم نعموين كان عن هيسنه هدان إلهي نسور تقل المهلين وما بكم من نعمة فمن الله إلهي بأين السيئي نعمدان إيه دينتان نعمد وين دينتا إسلامك وهون يعني ما أنت الله هيستو ولقب صدو ما أنت ماشي عن مرينو إيه شغلي ماشي عن كنمد محالي هذا هذا أي أكل فوقيهين هذا أي أكل فوقيهين ونعمة وين ماركتي ولمنا مساجد هذا ما أنت dadka ugu badan oo gala waa dhalinyarada aad iyo aad marka horta mahadda ilaahay baa iskale subxaana wa tacaala mahadda ilaahay bacdigeeda waxaan mahad u jeedinayaa dadkii ka soo shaqeeyey masaajidkan oo maaragtay quruxda badan oo ilaahay darti u dhisay oo suldaanku ugu horeeyo maxamuud khaliif iyo maxamed macalin kulmiye waxaana u ducaynayaa iyaga iyo sheekh cali nuur macalin ismaaciil oo shiikha aan isleeyahay mar kasta inuu tawjiihiyo ma arkaysaa
odayaasha khayrka ku tawjiihiyo caafimaad iyo cibaado san iyo cimri dheer baan dhammaantood uga baryayaa khaasaan sheekh cali nuur ilahay waxaan uga baryayaa caafimaad inuu siiyo ilaahi subxaana wa tacaala xadiid aa wada garanaysaan oo dahaba ahlu duhuuri bilujuuri nabiga calayhi salaatu salaam waxaa u yimid dadkii danyarta ahaa waxay ku yidhaahdeen nimankii lacagta lahaa baa ajarkii la tegey nabigu calayhi salaatu wasalaam waxbuu u sheego yidhi waxaas dhaha markaad ilaahay u tasbiixsataan oo ilaahay u mahadisaan oo waxbuu u sheegay qarsada buu yidhi ayaa laydinka ogaani marka masaajidkay fariisteen oo wixii bay bilaabeen tasbiixdii iyo taxmiiddii iyo tahliishii takbiirtii kuwii kala arkay oo lacagta lahaa markaasay la bilaabeen waxa iyagana way la bilaabeen nabigay ku noqdeen oo u dacwoodeen oo waxay dhaheen nimankii aan wax ka qarsanayni warkeeni way heleen nabigu wuxuu yidhi dalika fadlullah yuutiihi man yashaa waa ilaahay dhe nina marka waxaan ku keenay xadiidkan nin maalin weyta baan cidahanayto dega fino iyo carabiya iyo lafe iyo buu igala hadloo yidhi cidahan lacagna way heleen midnimona way heleen marka waxaan haddana marka hadda waxaan u jeedaa inay diin ku darsadeen wixii hore oo wax wanaagsan ahaa qofku hadduu diin ku darsado waxaa lagu kala hormarana waa diinta ogaada in allaha la yarfacu bi hada alkitaabi aqwaaman wayadacu biha aakhariina waxaa lagu kala hormarayaa waa diinta islaam waxaan doonaynaa inaan khayrka ku tartanno ama faamili ahaan ha loogu tartamo ama afraad ahaan ha loogu tartamo in khayrka lagu tartamo oo masaajidadii la dhiso oo masaajidada dhismo keliya maahane ee maaragtay la camiro sidii doctor ismaaciil uu u sheegay in masaajidada la camiro oo aan laga dhigin xataa isbitaal laga dhigo shirarka a ku qabsataan sacad ibn mucaad markuu dhaawacmay qaswat bani qurayda masaajidkaa lagu daaweynayay masaajidka waa inuu isbitaal noqdaa waa inuu noqdaa maaragtay masaajid duruusta shirarkiina masaajidka ku qabsada masaalixda masaajidka waa inuu iska furan yahay oo shaqada ka socda waxaan ku xirayaa hadal badan inaan dhaha ma rabo imaamka imaam maxamed aadam dhalinyaradii jaamacad ka soo baxay weeye shahaadadii koobaad liisans jaamacadduu ka qaatay shahaadadii labaad oo maajisteerkana jaamacadduu ka qaatay marka isagana maaragtay inaad saa u ogaataan nin aada u qiimo badan oo weliba isagoo nin shiikha oo qur-aanka aada u yaqaano oo musaabaqaadka qaadi jiray uu yahay taana waxaan u sheegayaa jaamacadda inaad ka warqabtaan baa la rabaa inaad ka warqabtaan ninkaan jaamacaddii soo saartay in la ogaado ayaa la doonayaa waxaan ilaahay ka baryayaa in masaajidkan iyo shaqada aada haysaan hadda ka hor waxaan tegay mandheeraad i geyseen dugsiyadii baan tegey tartankii qur-aankaan ka qayb galay dhowr iyo 17 dugsi 18 dugsi ay ahaayeen waxay ku tartamayeen qur-aan keliya ma ahayn diinta barashadii diinta marka insha allahu tacaala in sidaas oo kale maaragtay loogu tartansiiya caruurta qur-aanka iyo diinta haddii ilaahay yiraahdo waxaan shiikha wuxuu yidhi jaamacaddaa sheegin waa tee sheekh nuur waa midda ani odayga ka ahay waxaan uga baxayaa oo mahad khaasa hadda ka hor culummada way garanayaan sheekh umar iyo sheekh shibli iyo 2007 waxaa isku xirmay culummadii iyo tujaartii iyo siyaasiyiintii wax weyn baa waddankan u hagaagay ninkii odaga inoo ahaa waa dhexdaasa waa tii geeska la geliyey waa tii kursigiisii laga qaaday maalintii kursiga uu ka degay baa soomaali indhaha ka dhacay hadda waxaan leenahay in sha allahu tacaala aadan barre ducaale ilaahay intuu masaajid iyo madraso u taray ilaahay ajar iyo xasanaad ha ka siiyo ilaahay subxaana wa tacaala abaalkeeda ha u gudo waxaan leenahay in sha allahu tacaala hadda ka hor waan ma dheeraynaye maxamed yuusuf xaaji ayaa maaragtay mahmaah noo sheegay marka allah u naxariistee intaan u tagnay baan ir waddanka dhib baa ka jira marka wuxuu rabay inuu yidhahdo hadda ka hor waa naga tagteen hadda haddaad soo noqoteen marka aadan
aadan barre ducaale waxaan leenahay haddii xataa lagaa tegay maqnaanshahaagii qofka lama ogaado ilaa uu tage hadda sidii hore si ka weyn baa lagu soo celinayaa diyaar garow asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاك الله خير الشيخ الدكتور الشيخ محمد شيخ عثمان وقتك علماء وأصوات قبل لبع علماء يقدم إن شاء الله تعالى وهذا مية ربي إن شاء الله تعالى شيخنا الشيخ محمود شبلي جزاه الله خيرا فليتفضل مشكورا بعد إن الشيخ عمر يقول حاجة إن شاء الله ما كان بعد حنقل دون نار رجال هذا السياسيين بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عمل كان لقبتي مساجدك إلهي سبحانه وتعالى عمل خالص الله كله كيف الله قبتي عبادتي يا علمي الله فري إلهي فضدين لو قفا يستر الله كله عندي وحكو درستينا إلهي سبحانه وتعالى دونكنا دتكودي الدنيا الله ugu barakeeyo iyo diintooda aakhirada miisaanka xasanaadka Allah ugu daro kaliya culamo badan baa hadashaan filaya waan soo daahay sheekhana waa ila dambeeyaa kaliya waxaan dhihi lahaa masaajida hala badiyo weliba sidan oo kale kuwa wadooyinka waaweyn ku yaala manaarada dheerdheerna ha loo sameeyo dadka socdana waa ku tukanayaan wadankana sawir bay ka bixinaysaa qofkii jidadka waaweyn maraba in muslim joogo muuqaalku mar buu iska noqdaa keligii dacwo qofkii soo mara waa masaajid kaniisadaha waad aragteeno wadankana jidadkaa laga dhisaa haddaad tagtaan ethoobiana meel kasta oo taag ah kaniisad baa korkeeda ka dhisan magaalada kor markaad kaga timaado waxaan kaniisad ahaynba ma arkaysa waxaa la rabaa muuqaalka magaaladu muslimka iyo islaamnimadu inay ka muuqato qayb astaantii islaamnimadii iyo dacwadii ka mida masaajidaan dad badan ku tukanin laakiin muhiimad dacwadoo badan haysaa jirto oo jidadka ka dhisan saa socoto baad min baa arki adiga muslimka islaamnimada baad xasuusan salaadii baad xasuusan marka masaajida waaweyn iyo meelaha muuqda ee jidadka ah iyo ayna ku dadaalayna ka dhisno طبعا guud ahaan qof kastoo ka mid ah meeshuu joogabana waadan u baxsan oo moolkii meel fog muslim ka dhiso haddaad tagtay meel ku tukato maad ka heli marka masaajidana waynu dhisnaa haddana isku tashi baa marana waagi hore carabtaan u doonan jirnay carab masjid isaan raadin jirnay ninbaa wuxuu yidhi nin baa deka ka soo baxay halinkaan buu 3 musaxaf u soo doontay shidaalku ku soo shubtayna 10 musaxaf buu gooyaa kaliya uusan baranin inuu wax bixiyo alxamdulillah hadda waynu baranay raggii masaajida dhisay waa laga yaabaa kuwa horena waa dhiseen kuwa dambana waa dhisi doonaan inteena kalena 10 bay noo tahay masaajida dhismahooda gabagabadu dhagu xiraga cimri dheer isagoo taagan baynu inteena tagaynaa aynu ka tagna wax markaynu tagno magac wanaagsan iyo ajir wanaagsan inoo socdo بارك الله فيكم رأي هذا وإذن كل رأي السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا الدكتور الشيخ محمود الشيخ شبلي دوما سنت هاي عندنا شيخ أم الويرين كنا إماميته فيها مفيكا الشيخ جمعة عامر tunakaribisha sana Sheikh Juma nataka ukuje hapa useme moja na mbili inshallah usalamie raia wako inshallah وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وعلينا معهم وعلى جميع أمته من المسلمين والمؤمنين
ndugu zangu Waislamu, kwa furaha na kwa furaha kubwa iliyotukusanya hapa kwa sababu ya kufungua msikiti. Ni rehema ya Mwenyezi Mungu, ni fadhila za Mwenyezi Mungu kutuona kwamba Uislamu unapanuka kiasi hiki mpaka sehemu hizi na sehemu nyinginezo kupatikana misikiti. Ni alama ya kwamba khairi nyingi ziko. Sioni kama leo ni siku ya kusema, leo ni siku ya kufurahi, ni siku ya wapongezi wale wa jamaa waliotufanyia khairi hii. Inshallah siku ya kusema, ngoja kuna membari hapa tutaalikwa. Assalamu alaikum. Wa alaikum salaam wa rahmatullah. Asante sana Sheikhana kwa hiyo kalima yako. Waxaan rabaa fursada inaan qaato u yeero sheekheena Sheekh Maxamed Cabdi Umar, jazaahu Allahu khayran, falyatafaddal mashkuuran majuuran. بسم الله الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. أيها الأخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلهي ومعسك الله تبارك وتعالى أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، نعموين كيسان لتركوب كريم تنهد أين تشوغنو يا مساجد كان عصب xaafadan Diamond Park laga dhisay. xafladda furitaanka aan u fadhino, nicmadan ilaahay ina siiyey waxay qayb ka tahay nicmooyin fara badan oo aan haysano oo diin iyo adduunyo isugu jira wayna tirakoobi kara. ilaahay waa ku mahadsan tabaaraka wa tacaala, isagaana weydiisanaynaa inuu inoo siyaadiyo, shukrigeedana inoo waafajiyo. kadib waxaan u mahad celinaynaa walaalaha masaajidkan dhisay, waqtiga iyo kharashkaba ku bixiyey. masaajidkan runtii meel istaraatiijiya buu dhacay oo loo baahnaa. jidka buu haystaa. markii hore masaajid yaroo ku meel gaadh oo temporary ah baa xaafadda ku yaalay oo kaniisada weyn ka horjeeda. marka waadhaxa waxaa laygu yidhi meeshii baa laga rarayaa, halkana loo soo raraya intaan la bilaabin. xogaa marka waan yaro saluugay naftayda oo waxaan is yidhi warmalaha meeshaas laga soo rarayo iyuu kaga fiicnaa. hadda laakiin markaan soo galay oon arkay masaajidka iyo waddadu haysto iyo inuu waddadii uu ku furan yahay, dhinacna xaafaddii kaga furan yahay, waxaan garowsaday in uu fikraddani ay sax tahay. istaraatiijiyadiisa waxaa qayb ka ah kaniisadda weyn ee magaalada laga agdhisay, xaafadda laga agdhisay ee masaajidku muqaabilka u yahay. qolyahan kaniisadaha waxaan ka baranay meel hadday masaajid ku arkaan kaniisad bay la soo raadsadaan. marka annagana meeshii aan kaniisad ku aragno waa inaan masaajid la raadsano oo sidii la sheegaya aan minaaradda ka garab taagno, leanna waa laba astaamood waaye, waa xaqii iyo baatilkii waaye. xaqu marka inuu muuqdo waa loo baahan yahay. aad bay u mahadsan yihiin walaalaheen, ilaahay miisaanka xasanaadka ha idiin saaran leenahay. intaa kadib iyaga waa guteen waajibkoodii, laakiin waxaan leeyahay waxaa idiin dhiman, laga yaabo inuu qorshaha idinku jiro laba arrimood. arrinta koowaadi waxa weeye inaad qaybtii meydka haddii uu jiro, hadduusan jirin aad ku dartaan.
masaajidkani istaraatiijiyadiisa waxaa ka mid ah jidkan uu saaran yahay waa jid highway ah toos wuxuu u galaa laangaad qubuuruhu toos u galaa isagoon jaam la marin highwaygaa la qabsanaya wuxuu kaga muhiimsanaanayaa masaajidii South Sea ee meydka la geyn jiray asagaa ka muhiimsanaanaya xagga jidka marka la yidhaahdo sidaas daraaddeed muhiim bay tahay in loo sameeyo qaybtii meydka lagu dhaqayay iyo meeshii lagu kaydinayay intaba qodobka labaad aan doonaya inaan ku baraarujiyo walaalaha masaajidka dhisay waxa weeye masaajidu maadaama ay caasimad ku yaalaan waxay u baahan yihiin kharash lagu socodsiiyo idinkana intaad sii noolaanaysaan allahu aclam waxaan marka dhihi lahaa masaajidka u sameeya intaad nooshihiin waqaf u sameeya kharashkiisu ku sii socdo imaamka korontada biyaha nadaafadiisa kharash lagama maarmaana waay dhibaatada in haysata waxaa ka mid ah arrimaha waxaa inagaga fiican bulshooyinka kale hindida iyo bulshooyinkaasaa inagaga fiican innaga masaajid ingegan baan dhisnaa kadibna waxaynu la xala gaadhaa beri in masaajidkii loo dawaro oo la yidhaahdo war biyihiisii bixiya war imaamkii warkanay waa laga fiican yahay nidaamka awqaafta inaynu baranno masaajidu ay awqaaf yeeshaan inkam uga soo baxo qodobkaana ku dara insha allahu tacaala wax socdo iswado si aad uga tagtaan biidn illahi tabaaraka wa tacaala labada arrimood walaalihii masaajidka dhisay baan ugu dari lahaa laga yaabo inay ku talagashiin wax ka jiraan ana ka warhaynin innaga bulshadeenna muslimka ah innagana waxaan dhihi lahaa masaajida quruxda badan ee laynoo dhisay ee soo kordhaya aynu ka faa'iidaysanno masaajida waa in loo soo celiyo ictibaartoodii ay lahaan jireen waqtigii nabiga sal alla alay wasalam masaajidu nolosha dadka muslimiinta waaye noloshooda oo dhan masjidkaa matala sidaas daraaddeed baa nabigeenu sal alla alay wasalam magaalada madiine markuu soo galay shaqo kale isagoon qabanin masaajidkii uu dhagax dhigo dhismihiisa bilaabay nolosha muslimku waxay ka bilaabataa masaajidkay ka bilaabataa masaajidkana way ku dhammaataa sidaas daraaddeed baa masaajidkii nabigeenu sal alla alay wasalam wuxuu ahaa goob tacliinta laga barto madraso jaamacad meel aqoonta laga fidiyo meel kale ma jirin madaaris bannaankaana ma jirin jaamacado bannaankaana ma jirin iskuulla ma jirin meeshana wax lagu baran jiray waqtigii nabiga sal alla alay wasalam masaajidkii nabigu wuxuu ahaa sal alla alay wasalam goobta dowladda laga hogaamiyo xafiis masaajidka ka baxsan ma lahayn nabi maxamed sal alla alay wasalam halkana dowladda looga talin jiray masaajidkii nabi maxamed wuxuu ahaa sal alla alay wasalam goobta dadka jiran ama soo dhaawacma ee meel la dhiga la waayay goobta la dhigay ahaan jirtay oo isbitaal oo kale u ahaa garanaysa saxaabada qaarkood sida sacad ibn mucaad oo kale markuu soo dhaawacay nabigu masaajidku ku baxnaaniyey sal alla alay wasalam marka xataa isbitaal ahaan baa loo isticmaali jiray maxkamad baa loo isticmaali jiro nabigu sal alla alay wasalam dadka ishaysta iyo khusuumaadku ku kala saari jiray oo maxkamaddii wuxuu ahaa masaajidka nabiga sal alla alay wasalam masaajidka nabigu wuxuu ahaa wacyigelinta bulshada iclaamka ma jirin meel idaacadana ma jirin telefishinana ma jirin masaajidka bulshada laga wacyigelin jiray macnaheedu waxa weeye imaam bukhaari caleyh raxmatullah baababyaasoo dhan u baabiyo saxiixiisa masaajidkii nabigu wuxuu ahaan jiray haddaad doonto inaad fahanto saxiixulbukhaariga haddaad fahanto kitaabulmasaajid haddaad akhrido waa kuu soo baxaysa masaajidku muxuu ahaan jiray gadaal dambaa masaajidka mahaamtiisii baa qayb loo qaatay qayb baa la qaatay dowladdii baa laga saaray tacliintii baa laga saaray markii dambe wuxuu ku soo urursaday masaajidkii meel lagu tukado kadibna iridaha loo xidho khasaaruhuna halkaasuu inaga bilaabay waxaan leenahay marka masaajidda ictibaartooda loo soo celiyo masaajidu waa inay saldhig u noqoto nolosha muslimiinta markaasaa ilaahayna barakeynaya biidn illahi tabaaraka wa tacala waana muuqataa runtii in loo soo noqday oo noloshii usoo noqotay masaajidda ganacsiga usoo noqday ictibaartii soo noqotay siyaasiyiintu xataa markay kursi inaga rabaan masaajidda inoogu imaanaya waa inu masaajidka soo aado soomaa oo masaajidka looga duceeyo oo masaajidka cod ka raadiyo marka masaajidii way soo noqon insha allahu tacala ictibaarteedii waa soo noqotay cid walbaa u taagan arrintaan runtii wax wey innagayna la jirtaa waa tacmiirkii aayaddii inamaa yacmuru masaajid allahi man aamina billah camiraadu dhismahan way tahay waa xisi
camiraadku cibaadaysiga iyo masaajidka in laga faa'iidaystana waa camiraada kale waay marka innagana taasaa ina faran insha allahu tacaala mar kale hadalka waa ku dheeraaday haalahaada waxaan u ducaynaynaa walaalihii masaajidka dhisay insha allahu tacaala dhismahaan sii wadno sida laga sheekeeyey dalkani insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa in aan waqti kooban aynu u bedelo dal muslim ah annagoon xabad ridin oon dagaalamin oon mushkilo samaynin ayaan dalkan waxaan u bedeli karnaa dal tawxiid iyo sunnada nebigu sal alla alay wasalam ay ka nooshay mushmuuca aadan barre ducaale hadda ka hor ka sheekaynayay waxaa la damcay buu yidhi in webiga Tana River na lagu celiyo halkaas na lagu hor istaago waa soo dhaafnay saan usoo soconay caasimaddaa nimid xaafad islii la yidhahdaan yeelanay ganacsigeedii iyo deegaankeedii haddana waxaa la damcay in isliina lagu hor istaago isliina wuxuu yidhi intaanu 4 faataxa iyo akhrisanay aayatul kursi baan iyadana soo dhaafnay waxaanu maraynaa hadda towkii iyo xaafadihii qaaliga ahaa baan joognaa hadda waa dhaafnay oo waddanka qaybihiisii kalgedsanay oo dhan waa galay hadday ganacsi tahay iyo hadday diin tahay iyo meel walba tahay waa galay ilaahay tabaaraka wa tacaala ha inoo daayo hana inoo daa'imiyo waana inaan ilaalino xifdino wixii dhibaato u geysanaya ka ilaalino waana inaan horay u wadno khayrkaa socda insha allahu tacaala iyo wanaaggaa socda dadka dhaqaaluhuna dowr bay leeyihiin kaalin bay leeyihiin siyaasiyiinta iyo madaxdeenu kaalin bay leeyihiin culimadu kaalin bay leeyihiin ganacsatadu kaalin bay leeyihiin hooyooyinku kaalin bay leeyihiin dhallinyaradu kaalin bay leeyihiin cid walba marka kaalinteedii inay isu taagto diinteena inaan kor yeelno insha allahu tacaala masaajiduna asaas u noqdaan raalli ahaada mar kale jazaakum allahu khayr wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ABW 451B ninka iska leh gaariga bixiraba walaal waxaa ka qaada gaarigaas jazaaka allahu khayr sheekhana sheekh maxamed cabdi umar waa mahadsan tahay arrintaad sheegtay oo meeshaan masaajidkan istaraatiijigiisa saad u sheegtay waaye sheekh suu ka waday masaajidka had markii qofka meydka lagu dharo wadada qabuuraha socota waatan bypass buu qabsanay qofka موت مسجنون ركاب كتكون نربوسها كوه حرميش مرة قار مسايق مسلام كان كتكون سوسيد حتى جام كناعة لكن مسايق بايباس كو توس قبورة كذا يسار شيخ هرنتاس خير الله بشأن نوبر الجسي وحالة بلان قاعدين ثق كوميتي المسايق إن الله لسه إن شاء الله تعالى مال أو جنازة الأولى قوالة بلان قاعدين إن شاء الله سيبود البدن إن الله لسه إن شاء الله هذين هذا وما سنت هاي هذا كعلماء ما كسب بحي برامج كاني وديار صلاة دينا مختلف كنت كنارنا إن شاء الله إن شاء الله يحصل كلمات ديال وهذا غيره وهذا يوحنا كلمات مهمة شيء ربا وحنا رأينا مسؤول ومرة بعد دين دكتور إسماعيل رالي هذا أرينا إن كذا واجنه أي لقد واجنين خير الناس يودتك مساجد كان لسي يودتك مساجد لسه مسجد ولكن الآن يعني من كسياسيين علماء وضيال قدامها مسجد أجرا دبك تاجن أو كل هر إمام اسمه دبكي سنة لو قيبود ويان قيب ووح أباهن قعن أو نيجستاو وحول بيحكرو إنه الله بحاجة قيب ترى الله كهر سنة وحويان أهلين حن آيات حق شيء إلهي سبحانه وتعالى وعيرة ومن أظلم من منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها مساجد لجوجيو أو وح kala u dhaxgal waa laga wanaagsan yahay xaafadda Makka masaajidka Xambar loo yaqaan ayaa taagan mushmo aadan waxaan rabnaa arrinta in aad madax nooga noqoto sheekh umana dhinaca wadaadaha ka noqoto odayaalkana qof la soo baxaan arrinta ayada ee mudayar inaan ku dhamayno dadka arrintaas ay dhaxtaalo inaan u istaagno aan dhamayno oo masaajidka asagana masaajidyaha lagu tukanayo idin lagu cibaadaysanayo kamid waqtida ugu degdeg badan shukran جزاك الله خيرا شيخنا دكتور اسماعيل مهم وايه intaan galin ragga madaxdeena soo dooranay rag fara badan gadaal ka yimaaday ayaan soo dhaweynaa culimada waxa kamid ah rag fara badan sheegi karin wadaadka
sheekheeni sheekh xasan imaamka masjid asalaam ee gadaal naga soo gaaray rag fara badan culamo ah markaad waxaa rabaa mikrofoonka inaan ku wareejiyey maxshimuuc cabdi moode suu ugu yeeray raggiisa siyaasiyiinta soo dhawaada بسم الله السلام عليكم بدو ورئيسة إلى ما تسكله تلوات dadkii meeshaan nagu yiri oo masaajidkan dhisi ma tskale inta ka soo qaybgashay waa mahadsantiin waxaan u maleynayaa haddii aan dhanka siyaasiga dadka hadda uu mukhtaar sheegay waxaynaanu recognize rabaa madaxweynaha qaras maxamed xuseen oo loo yaqaan qaras inta marka annaga dii siyaasiyiintaana waxaa jooga maaija bashiir iyo majority leader aadan bare marka hadda waxaan rabaa inaan soo dhaweeye meja bashiir madaxweynaha mandera north waqtigana waa gaaban yahay marka inaan soo gaabinaan rabno بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم أنا هذا الكيد هذا وجواني هاي ماشى وعطها العلماء وجو وينات مركو ورث عن ما حد علينا ذاك عرفنا قدم بي وحاج محمود خليف يوداش كلا كمديهن خير يا حسنات الله قصيه annagana maanta waxaan u noqonoon witness masaajidkii meel fiican waa u tusmeeyeen meel strategicna waa ka dhigan saad sheekh umar sheegay meelaha ugu fiican oo laga dhigi karo waa meel oo highway ah iyo meelo kaniisada ay ugu dhow yihiin kaniisada markay ugu dhow yihiin dadkan maxay fikrad ka qaadanayaan waxay arkayaan masaajidka in la camira shanta salaad lagu tukana ayagana waxay sugayeen axaddi soo dadkii markaa maskaxdii waxaa ka gelaysa masaajida inta ku yaalla u dhow khaniisadana dadkeeda waxay imaadaan un axadda keliya masaajidkana shanti waqtan waa lagu soo biira soo fikraddaas waa fikrad oo psychological ay ka qabsanayso waana muhiim soo meesha laga dhisi iyo meeshii khaniista u dhow inaan ku biirno waa muhiim masaajidka dadkii dhiseen waxay ugu talagaleen in la soo camiro haddaa la dhiso oo dirbi iska noqoto oo annagana aan imaadayn camirayn ayagana ajirka ay raadinayeen iyo muslimiinta kalena lama helayo so waxaan ku dhiirigelinahaa dadka muslimiinta in masaajidka la soo camiro oo laga dhigin haddana in lix lagu tukado bilix oo laga dhiga meel tacliin ah meel arrimaha diinta islaamka xukunkeeda xoogaha oo la iskugu imaada saas sheekh umar sheeg arrimahaas waa muhiim nairobi masaajidaha hadda xaafadii waa bateen saa la sheegay meel walba waa joognaa so annaga inaan diyaar u noqono oo arrimahan aan ka dhigno hadda meelihii badan upper hill madaraka iyo meelahan masaajid ma leh so annagana inaan ka fikirno meeshaas si aan masaajid ku geelin lahayn maxaa yeele meelaha iyadan xaafadana waa la degan yahay dadkuna waa soo bateen iyadana qaybtaas in laga fikiro ugu dambeyn masaajidaha markay badan yihiin waxay tusinaysaa muslimiinta inay badan yihiin alxamdulilah waddankan kenya annaga culays badan nagala mahay arrimaha diinta heer inaan gaarsiinaan rabnaa masaajid inay bataan hadday bataanna muslimiinta ayaa badanaa dhinac walba so insha allah taasna waa ku dadaalaynaa annaga dadkii oo la soo doortay wax weyn oon qaban karno ma jirto laakiin waxaan qaban karnaa un dhinaca dowladda ay noqoto weji inaan tusno oo annaga muslimiin aan nahay arrimaha diintana u taagannahay marka insha allah mar labaad iyo mar saddexaad dadkii meesha arrintan soo qabtay khayr iyo xasan alla in ka siiyo arrimaha diintana waa in loo ordo
axaddaa soo socota naftikayda waxaan u yeeray muslimiinta idil meel oo madrasadinka madiara north lacag loo runto waana arrin shay ah oo muhiim ah oo diin ah soo idinkuna waxaan ku baraarujinaa axaddaas insha allah tawsiya ka dhigi doonaa red code haddii ala soo cimiro waxaan u malaynaa culmadii waa wala joogaan muslimiintu waa wala joogaan waxaad ka geysan kartaan arrin yar aan tilmaamay oo ku xisaabsan masaajidka waa la dhisay dadaa soo dhisan waxba ay bixiyeen nadaafadeedii service chargekeedii saa la sheegay waa inay self sustaining noqoto anigu waxaan dhihi lahay masaajidka maxaa yeele qof walba kusoo tukuna in loo furo waxaa la dhahaa service charge pay bill oo qof walba meeshaad joogo ama aad ku tukanaa bir walba inaan wax soo gelin oo ay noqoto waa wixii nadaafada loogu waxeeyo service charge pay bill waxaa la dhahaa oo masaajid walba loo sameeyo oo ay noqoto self sustaining KCR 041K gaariga tafadhali sana qof iska leh banaan ku baxo probox intaas ayaan kusoo kowayaa insha allah khayrkii xasanaadkan allah na waafajiyo axaddan insha allah lacagtaas noqdo madrasadinkana ka soo qaybgal assalamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu maasanta bashiir waxaan u maleynayaa wixii khayrka iyo masaajid ku saabsan wadaadadii meeshaan istaagay ka hadlay masaajidka dhismidiisa waa meel laakiin ku camirintiisa dadka dadweynaha laga rabaa anaga naga rabaa sidii la sheegay masaajidka lagu soo tukado meydka dhanka meydkana hadaa la hagaajiyay meeshaan sausiyo aada loogu rafaaday waxaan umaleeyaa intaan usoo gudbayna masaajidkan haddaan fiiri waa masaajid saddexaad kan jamiica kan parkland kana ku saddexee weyni hadaa la yidhaha marka aada umahadsantii dadka dhisay khayr asanaad allah ka sii hadda waxaan rabnaa in yani masaajidka dhismidiisa hadaa la dhisay waxaa sidii oo masaajidaas hadda sausi waa buuxsanay markaad tagta jimcadii meel istaagay malaha marka insha allahu kana aad lagu soo dadaa sida lagu soo tukun lahay marka hadda waxaan rabaa inaan u yeera maxshuuma majority leader hadaa laga qaaday anaga lagama dhankayn annaga hadda markaan noodistaan anahay biyaalka waa isku wada xirinahay asagaa weliba noo ahayn batronkii noo ah marka soo dhawaa maxshuuma بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ولماذا شرفت أوي هاي شيخ محمد أمون ولماذا ما تقول واجه شيخ محمد عثمان إمام كجميع قناع ستدين أوي هاي سلطان كينا odaygeena mse maxamuud khaliif dhallinyarada hooyooyinka kor saaran maanta waa maalin farax badan leh dadka wax badan isku imaadaan waliba reer wajaari reer mandheera waa naga inkaarintiin oo sabti xadda hoteeladu baad shirir ku qaadi anaqda reer gaaris maba joogno laqdaa tagto hoteeladan booma meelaha tagto reer wajaari reer mandheera waxma dhulki baa niga fogaado shirir intaa u qabatiin laakiin maanta waxaan umaanaa suldaanka maanta axadda maalin ka fiican maanta waxaad ugu yeertay furitaankii guriga ilaahay masjidaad nagu yeertay adi iyo mase kulmiye iyo dhallinyarada faraha badan oo kula shaqeeyaan wanaag aan idinka baranay wanaag fiican baan idinka baranay waxaan idinka baranay midnimo haddaad tihiin faamil waxaan idinka baranay dad markii wakti kastaa loo soo baahdo oo tolka usoo baahdo ama tala ama qaaraan ama ummadda wax u gargaar marka museega iyo wiilasha la shaqeeyaan iyo faamilka wanaaga idinka baranay maantana bulshada islaamka ee magaalada iyo bulshada soomaalida waxaad ku soo kordhiseen inaad masjid weyn oo waddo weyn saaran oo kaniisad weyn agtiisa laga dhisay waqti kastaa meeshan aan maro sheekh umar
أنا قرصت وايد بجرتي because حافظة كله إن أنت كواحد حافظ برشة صوماليات مركز مال في عمل خدستان سيده هور dadkii hore ay sheegayna hadda markii la dhameeyo meesha janaasada lagu dhaqo meeshan hadda 5 daqiiqo 10 daqiiqo dilo mara bypasska meelihii qabuurinta muslimiinta ee laangata si degdeg ah lagu tagaya marka waa masaajidaha ugu weyn ka mid ah culimada anigoo mahad weyn u celinayo sheekh umul weyn yahay sheekh maxamed tobanka sano hadda soo dhaafnay masjido weyn ayaa magaalada laga dhisay أنا قريب وين حقاتي مسجد كباكلانس أو هذا قلوين كولا هنا مسلمين دي هندية هذا ما كلا ورجنبو سومالي وحاول حتى جوري مركو يبصروا ويا باتمان يبصروا عرادين مال المسجد مسجد كباكلانس مركي لديسة تقريبا لا 6 بقول جوجو مليون بالو قدسه هذا بيني مركان ما ننتي باللابه دتك وياه والله حتى تلقى كينه وعقدر ما ننتي شيخ عمر ونوير أو مسجد ك6 وهو شيء فيس 1 فيس 2 فيس 3 مركز خضر 1 بليون مئات ذاتك بركي ماشي فدي وين قال اخي قاري عادي ور والماشي اللي ما شيء قاعد معي كما انت مسجد ك6 تقع ده كله بس اللي جوا ذاك مسجد باكلاس ناركا يا مسجد كهالينغهام يا مسجد هذا كله ودمارها ما شيخ محمد ادمز صلاة عصر أنا كنت كنده وانقرنا 20 واحد 15 مئات شيخ محمد ونا روريه ماشى يو كوب الله بي العقارورس 19 مليون أنا كقرني صدق دقيقة مات ما أنت المسجد يجي وضع مرتي واركز مكان مسجد وحاول أستانك أو مهم سن إجان مجارة سوقشوا إني برشة أي إسلامك إجران قريه أستان ما هو حتى مسلمين فرب بدنا كله ورشة ماشن اللي كوني رودي انتربرايز رود سمجلو لكن لما قرأ قرآن بعد قلي لكن مسجد كوحاوي أستانك أقوي إنه الدين تا حوجي سنيسو إنه مسلم برشة مسلم كإيسو بدنا يسو مركا مسجد كوحاصر أو أستانك إسلامك حجابك جاب كان أصلاً إستان وحاول إستان شيء في عنه ضدك تسيسو إني برشة الدين الإسلام يحب كل هذا هي مجال داس يو حافظة حتى حافظان سوسي شلون مرانا مش أنت ما تقولون عن مري وضدنا هنا حويري بلفيو كقل أنت سوتي قل كقب حويري ماشن رانا باوت كتيمول حافظة قام مش مركز يرجع تو حكار ما نقبل قوان حجابك مركا حجابك هو أستانك وين عرورتي أنا برا لكن إلى آخر السياه مسجدك والد لسه أنا قارس عن قارك تقريبا إلى 6 مدارس أو ثانوي إعدادي بكدسن وحال أركي حافظ مدرسة كدسنت ده عرورته ده إنتي كانين قبله ولا مركا القلنجبين قبله ده أي نمبر قادناين dadna waxaad arki xaafadii madrasada degan ilmahoodana madraso keenayeen quraan akhrisanayeen marka masjidka waa la dhisay waxaad dhici kartaa dad diamond degan inay masjid oo muslimiin inay masjidka ka faa'iido marka waa nasiib darada ka waa inay markii masjid saan loo dhiso waa inay la soo camiro waa in caruurta la keeno caruurteena waa in masjidka la baro caruurteena waa inay gacanta la qabto oo masaajidka la aado هذا الشيء أو خطر سنة أنك دتك وين بدين دتك 20 سنة 60 سنة هذا كبعدي دتك الربعيني معرة ماشي أضياش سلطانك علماء يسوق جالسين وإني عرورتين نقونين بك عرورتين أنا سكولي تجاين تذكري لكل مايين أو ديمم كلاله أو دستور كلاله أو رقم كلاله بك عنق وإني لو قد أفصل ولا هالله عنق وإني دين تلبره عنق وإني مسجد كالجيو عنق وإني مدارس يدكسيد الجيو ساس أي بلشة أي مارت أي يدين تبي حكوا يلان الحمد لله سلطان كان نوشة يقول 1975 76 77 78 وأنا شقوم اللغة شكينة إسلي يمقالة إني مسجد يجري
maantana waa arkaysa meel kasta xaafad kasta marka waa inaan masaajidihii aan badino weliba dadkaa xoolaha leh intaad nooshee xoolahaada ma aragtay masjid iyo madaaris intaad nooshe hadhiin markaan dhinta carruurteeda masjid ii dhisay waxaa la sheegaa nin maalqabeen ahaa yaa dhintay markuu dhinta maal badan buu lahaa guryo badan buu lahaa markuu dhintaa la yidhi hey dhaxalka la qaybinaya waxaa la yidhi bal gurigan ha la iibiye saan maqle ha la iibiye aabbihiin masjida loogu dhiso carruurta weliba dadka khatarka ku jira waxaa dadka xasaska faraha badan le markay tagaan xoolihii baa lagu dagaali dhaxalkii baa lagu dagaali marka kan waxaa malayna xaasas badan buu lahaa ninkan wiilashii gabdhihaa soo fadhiisteen wiilaa gacan taagan wuxuu yidhi aabbahay markuu noolaa muxuu masjid u dhistay waasaga aabbahay markuu noolaa oo xoolaha u heystay masjid muxuu ugu dhisan waayu yidhi lacagta marka lacagta wuxuu yidhi waxaa iskale lacagta waa dhaxale culamada wuxuu ku yidhi lacagta dhaxal waaye iyo dadkii joogay wuxuu lacagta xoolaha noo qaybiya marka taladaas anaga inoo tallahay marka dadka meeshan fadhiya oo maalqabeenka anigana aan ku jiro intaad nooshihiin xoolaha kala qaybiya xoolaha bar sadaqaysta sadaqa tujaariya masaajidi iyo madaarista gashada xoolana barna u dhaafa carruurta iyo xaaska iyo dhaxalka hadhow hala qaybsaday hadhihin wiilkayga hadhow masjid ii dhisi wiilkaada maskuubtaadi marka waxaan taas dadaaran bay ga tahay ugu dambeyn waxaan rabaa inaan bulshada soomaalida la hadlo bulshada soomaalida alxamdulilah meesha hadda aan joogno iyo meeshii aan joognay 40 sana lasoo dhaafay isku mid mooho walaalaha naga imaadeen waan badannay dhaqaalaan yeelannay siyaasigeenaa xoogaystay tacliinteennaa badatay culimmadeennii waaweyna waa imaadeen alxamdulilah maanta meel fiican baan joognaa laakiin meeshaas wanaaggaas waxaa lagu kabi karaa in la helo midnimo hadda sheekh waxaa lagu xantay suldaanka shayga ugu weyn oo bulshada Mandheera iyo bulshada Soomaalida iyo bulshada yar uu ka dhashay oo suldaanku yahay wuxuu ku soo waday midnimo iyo dulqaadasho bulshada Soomaalida waxaan ilaa horta meelaan joognaba inaan midnimo aan sameeyno oo aan iska warhayno badina lama jecla wadankan nimana ayaa wadanka waxaa jiraan inay rabaan riixaan laakiin waqtigii ay riixi hadda waan soo dhaafnay marka dhaaraxaas meel isku imaano waxay dhaheen Soomaalida waxay ka hadleen warmi waxaan dhahay Kisumu waan ka imaadaan Kisumu baan tagay waxaan arkaa nin Soomaali oo 20 dabaq oo guri dhisay haye marka waxaana Soomaalida Nairobi ku reebi rabteen waa tageen kuwaas Kisumu hadda dabaqay ka dhisay dabaqya Kisii bay dhaafeen Eldoret ay mareen Kericho ay mareen Kuru bay tageen ka Soomaalida way tageen aan ku dhahay iga waxaana talada waxaa haysiino sida aan meel ku fadhiisan aan ku heshiinay aan heshiin ma aragta aan dadka waxaana waa reer guura hadda waxay ku jiraan baan dadka kale ilaa war soo gala magaalada reer guura waxaana markuu meel dego oo meesha meel fiican u arko sidii noo kala inig waa reebanaysiin dadku ma sheegaysiin annaga waxaana Soomaalida kuwii naga maqnaa yaan leenahay war bal soo guura marka taas tooshka yaran lagu hayo waxaa la rabaa inay siyaasiyiinta iyo ganacsatada iyo culummada iyo bulshada dhalinyarada iyo hooyooyinka kudi inay midnimo la sameeyo oo la tashado taas ayaa ka bari lahaa oo marka ma aragtay shaygan ma aragtay reer hebel hebelkan aan joojino hataa walaalaha anaga kuwan hadda xamar isku haystaan anigu waxaan ka bariyaa culummada inaan u duceyno oo ay midoobaan ay mid noqdaan jirkeeda hadday meel boog tahay habeenkii ma saxanaysid annaka Soomaalida meelay joogaanba kuwa Ethiopia joogaan kuwa Soomaaliya joogaan kuwa Kenya joogaan kuwa qurbaha joogaan meelay joogaanba kii maanta buko kan Nairobi joogo ama kan Garis joogo asagana wuu bukaa marka hadda nimankaas waxaan dhihi lahayn bal nimayo heshiiya u tanaasula ummadda annakaaba yaaban siyaasigiina annaka wuna taabanaya marka mar bay gaareen marka siyaasiyiintana أنا هذا سياسيين تبدي قبل كوغوي بري حقوقه وحن كبير أنوه عشان حقوقه شيء 8 سنة كوسجري شيء 8 سنة يكوسجري حقوقه وحن أقعد دولة هي علماء ما كحران
markii doorashadii aan garayay 2007 yaa doorasho waxayd xoog loo niman culus is hayni waan fiiriyo intaad ku cartaa baan dhahay culummada gaarsan ku carray culummadii yaan ku carro gacanta ay qabteen aabbaha dacwada sheekh maxamed cabdi nin uu wey odayga u weynaa gacantii qabtee marka culumadana ballanaya qaar waxay dhahdeen adigana agaad noqoto kursiga gasha amaad naga cararta anigana meeshii masjidka taqwa baan anigana ballan ku qaaday waxaan anina igama carraaye ninkana garab istaaga soo berigiisaan culummada isku qabsanay hadda ana culummada waan la socdaa kumana khasaarin waa faa'iidaan ka gaarnay markaa siyaasiyiintan waxaan dhihi horta waa inaan culummada kusoo noqono culummadana kusoo noqono oo tala ka qaadano oo hataa baarlamaanka markuu arrin jiro oo bulshadeenna saameynaya waa inaan odayaasha iyo ganacsatada iyo culummada kusoo noqono oo dadka anaga aan u istaagno aan u heelino ugu dambeyn arweyd maxkamadda markay waxaa samaysay waad garanaysiin nin MB wuxuu dhaniyo ana inaan muslimaan raba oo gaal ah maxaa kugu dhacan wuxuu dhahay asaga markaa waxaa ka horjooday wuxuu riyo bishii ramadaanka muslimiinta zaid baa wadanka ilaahay u baradeen ilaahay aad baradeen wuxuu waa la aqbalay ilaa arrinka wuxuu dhacay maalintii iidda ka dambeysay maalintii iidda show dhacday hadii maalintii iidda dhacday marka waxaa weeye wadankana nin kasta dhinac uu kaliya marka waxaan dhihi lahaa ganacsatada iyo bulshada Soomaalida waa inaan isku duubnaano wadankan dhinac baan ka leenahay diintana aan sidoo culimada ay sheegeen masaajida aan dhisno minaaradka aan kor u qaadno egila arka astaanteena inay badatay marka waa xijaab waa dalaga baqi caruurteena aan ku soo tarbiyayno diinta gabdheena waa inay xijaabka qabaan wala culimada waxaan rabaa inay ka hadlaan hadda ma soo xadmo hotel kasta tag mool kasta tag wiil iyo gabar socdaan wiil iyo gabar Soomaali baa socdaan marka waxaan rabaa dadka waliba qurbaadkii maayakan ilmahooda ay si fiican ma aragtay hadduu ka yimaado London iyo America markuu Nairobi yimaado waxaan rabnaa inuu xijaabka ee boorka lagu geeyo xijaab gabadhiisa ay qabin xaaskada xijaabka ee boorka xijaab tukaan horta xijaab ila ka furno waa ee boorka tukaan xijaab ila ka furno ninki gabadhiisa oo xijaab qabin wado nina hadda ka hor ku arkay santa waajooji waa islaam culama xushmad ducaale warkaada waan maqlay ruuxada warkay waan maqashay laakiin gabadha kula socoto iyo xaaskada inuu xijaab ma qabaan marka meeshan dhaqan qabnaa gaar u jooji waxaan dhahay waa ibaratay laakiin waxaan dhahay gabadha iyo wiilka kula socdo gabadha iyo xaaskada kula socdaan madaxa may qarsanin marka waxaan dhahay xarko gaari ku noqo aad meesha waxaan dhahay waa dhulkii jalabiibtan ana gaaras mar hadda baadiyaha inaad tagto jalabiib bay qabaan soo magaraysin ma jaban marka soo dhawaada culumadeennana aan ka dambayno ilaahay wuuna mahadiyey ilaahay wuuna karaameeyey odaygan iyo raggii masjidkan dhisana ilaahay waxaan leenahay guri kan ka fiican jannada ilaahay haniga dhiso waxaan leenahay ummadda Soomaalidana ganacsatada ilaahay xoolooda ha badiyo diintay ku madaaristeena la dhisaan masaajideena la dhisaan dadka bukay lacag la siiyaan dadka ganacsatada Soomaalida bulshada waxaan leenahay ilaahay inkan xooliina حلال كدغو حولينا إلهي هني بديو وبالله توفيق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مشروع ماجوريتي ليدي هذا ماجوريتي ليدا هذا دوما سنتا خير الله كسي هذا ركيا أنا كمرقاتو عن كنا حنا علماء كحرن تاي رنتي دت كاين دلنيرت وسوشيال ميديا كحرن فيسبوك دت في تويتر كهذا برا أسبوع والبوي كان ميل وحوفة ديا مساجد ميل كتاب لو غيبنا ميل ترتن مساجد تاز مرقاتين كاغنا هني إلهي هاكو بركة إلهي هاكو زيادة كلنا هاي KCP 600H قفوا كحرة إن شاء الله هالكا هناك هذا أرنتو محشمو هذا نسوح سوسو حوا كلمة قدام بيسن حجاب كالي ورنتي لغنا لنا هاي مسلمين أن هاي أنا حجاب قبل أو حرنو واحد كذلك عند مظاهرات وحصوبة دينمي هو أن لي يامني قبل حجابا إن الشرار ورتو قال بيجي مطلف وليس لابد لو قلنا لابد نعكرر تاي قال ساق قبصان النب بيجي قال كوف ولا نما ورنا زارنا رنا عيب وايه واحد بدل مساجدها والله شيء علماء وكشيئين هذا مساجد عليها ماموين فديان أنت ماشي فدي هذا دلير قضي علماء عامة قبل ودلي قبل الله تي مد دماشديس ومد أفتوي مد أديروي هاي واي كل ين قبلها مسؤول كان هاي
nimay waa arrintaas aan go-aan fiican ha laga qaata gabdheen ha la wacyigeliye ha loo sheega arrintaas inay arrin xaaraan tahay oo laga fiican yahay aan u sheegna arrintaas waa daahirad aad maalin dhexdaas koo social media odayaal gaaris la wareysanaya mid la weydiiyo dhahay ka warna la dhahay hiyo biga ee kata kichwa kula yani arrintu wuxuu dhahay madax ka gooy laakiin arrintu waa aad yani wax dhaqan xumi waaye xanuun ka keenay inuu saa dhaha marka arrintaas aan aad ugu dadaalna waxaan rabnaa insha allah barnaamijku noo dhammaaday waxaan u yeeri rabaa suldaan maxamuud khaliif oo insha allah vote of thanks bixinaya kabacdi waa la aadamayaa duurka kabacdi salaada noogu xigto waa tukanaynaa markaan tukunna masaajidkaa si official loo furaya insha allahu kabacdina qadaaya jirta soo dhawaad jazaakum allahu khayran suldaan soo dhawo بسم الله الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله mahad ilaahay iska leh dhammaanteed faadan rasuulkiisa iska leh siduu u sharaf mudan yahay intaas markaan ka taga waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa ka soo qaybgalayaalka maanta meeshaanayta joogo markaan dhanka culummada fiiriyey intii loo yeero meeshaan istaagtay inta kaloo dhinacyaha fadhida dhammaantood waan idin mahad celinaynaa anigoo ku hadlaya afka walaalahay oo masaajidkaanayto 99% ama 100% ka qayb qaateen walaalkay maxamed macalin kulmiye walaalkay cabdisiraad wiilkaynayro noo agaasimay masaajidka anuu afkooda ku hadlaa iyo qaraabadana wada jecloo dhammaan afkooda ku hadlaa waa idin mahad celinayaa culummadayna waxaa kaloo noo mahad celinayaa siyaasiyaalka ayna meeshaanayta joogaan oo hoggaan u yahay walaalkay aadan barra aas hogaaminaya waan u mahad celinayaa waxaanse weli u sheegi rabaa hadday kaa tageen oo dhaheen annaga marakayn waa kaa qaadanay ilaahay kaama qaadanin tiis ilaahay kusii kaama qaadanin tii walaalaha ay kuseenna kaama qaadanin taasna waan kula garab taagannahay waxaa kaloon u mahad celinayaa ummadda meeshaanayta fadhide dhallinyarada odayaalka daalibiinta dadka wax akhrisanayeen dhammaantood waa idin mahad celinayaa gabdhaha kor saaran oo dhegaysanayeen macaanka culammada ka soo baxaysay ayakan waa u mahad celinayaa mahaddaas markaan ka baxa wax yaroo xasuusinne soomaali wax ma qorto laakiin waxyaalo reference ay meel dhigato oo xasuus ah waxaan idin xasuusinayaa ummaddan aan ka dhalin iluu u gargaari ayaan idin xasuusinaya gargaarkaasna inaan ilaahay ugu mahad celinay waan mudannahay kow meeshaanayto 1975-76 masaajid ciddaan ay oday ka tahay oo lagu tukanayo ma jirin labaa jirtay labada mabaati ay ahaayeen mabaati marka ay ahaayeen haddana waxaa markaas hoggaan ku hayay dad haddaan bacdi serabuuso quraafi loo aqaana hoggaan ku hayay ilaahay wuxuu nagu manaystay 78 marka la soo gaaray iyo 77 culummo fara badan iyo aqoon fara badan iyo wixii ka dambeeyay markaa dhulka soo galeen kuwiina aduu dhowr meelood hadda ku dambeeyaan saas ogsoontihiin oo ay ku dambeeyaan wixii kaloo masaajid la dhisane kulli waa masaajid wada sunna oo isku wada xiran waaye ilaahay aan ku mahadinaa waxaan u mahad celinaynaa markaan ilaahay u mahad celinay kabacdi culummadayna ishaaradaasayna tustay oo diinta inaa yacni aan quraafi la soo dhexgelina tustin waa u mahad celinaynaa ayagana waa u mahadsan yihiin dhammaantood wixii meeshaan joogo iyo wixii dhintay iyo wixii nool iyo wixii soo socdo iyo wixii gaarka joogo kulli waa mahadsan yihiin intaas markaan ka baxa waxaan u sheegayaa siyaasiyaalkayna hadalkoo yar un waxaa la yidhi reer hore iska dhumo gadaalka ma dhumo culummadu waa isku xiran tahay bicmishturku waa isku xiran yihiin dhallinyarada inkastoo facebook meelaha kula dhadhacaan oo iska yara ordayin waxaan laga tashanin ayagana waa ay ku xiran yihiin idinka isku xirnaada haddaad isku xirnaatiin oon idinka aragna tv-ga idinkoo maalin fadhiya oo shahwad cabbaysiin oo sheekaysanaysiin haddaan idinka aragna aad bay aad ay niinoo gelaysaa arrimaheynana kulli waa hagaagayiin tolkanu isku xirnaasha iskeenaya haddii laakiin aas idinkiis dabaga goysiin mid asinta ka hadla mid asinta ka hadla tolkina faa'iida dar hadduu keenaysiin idinkana waxaad keenaysiin yacni laciifnima idinku soo baxaysa aniga waxaan soo gaaray ilaahay gargaarkiisa markaan wax ka sheega oo ummaddaana soo gargaari inta meeshaan joogta guwood waxaan weynaa aad ugu weyn umalaynaa waxaan soo gaari wajeer ninka ka soo baxa oo gaar ka soo baxa iyadoo waraaq la soo goyna oo baamil raad soo qaadan isku imaada gaarisa
gaarreesa waxaan soo gaarnay haddaas gaarrees ka soo bixiyo iskeeyadan kala soo geli inta muddo hoos maqnaani iyo sababtaas ku tegi adigoo sheega oo baamed lagu goos ku soo tegi jirtay baamed la-aan sooma bixi jirin waxaasaan soo gaarnay hadda ilaahay waxaad nagu manaystay inaan meeshaan meel walbaba aan buuxno masaajid aan ka dhisana ummadeenna ay buuxdo waxaan soo gaaray siyaasigeenna anagoo islix yahay wajeer gaarreesa mandheera oo laba ayagoo yihiin aan soo gaarnay hadda maanta tirada ay taagiin ani maba sheegi karaba malaa waxaan u malaynaa sodomeeye waaye waa wax ilaahay lagu mahadiye culummadu waxaan soo gaarnay ayadoo ku wax sheegayiin qaar ay leeyihiin wareedhe lacagtaanayto hadda meelahan lagu haayo zake ma leh ay leeyihiin maxaa yeelay waxaana weydo waxaan dhahay 1976 ahayd war sheekhu adiga saas lehe ummadaas u sheekeyna waa adiga saas lehe zake male lehe maxaa zake ku lehen waaba wixii lagu nacfinaaba iid eh markaasaa wuxuu yidhi dee dhagax waa lagu nacfiyaa ma zakaa laga bixina dhagax nacfi wulahe ma zakaa laga bixina dhagax marka waxaasaa adduunka aan soo marnay haddana waxaan soo gaarnay iyadoo brofesayaal alxamdulilaahi rabbi alcaalamiin aada noo joogo doctor brofessor umal iyo intaan wada garaaba ka taagan iyadoo inoo joogaan oo diinta ilaahay sidii xaqeeda iyo la marinayaan hadda aan soo gaarnay kollayba hadda waaba soconnaa intaas markaan soo marnay wixii noo dhimanaaba ama baaba soconnaaba waxaas kulli ma hadda ilaahay inaan xasuusanna noogala baahan yahay waa haddaan bad nagala qaadi haddaan annaga aan gaankayno intaan dhan yahay haddaan masaajidka dhanba asbuuxsamaaya waxaan soo gaaray laba masaajid oo islii ku taalla section 3 mabaatiyaas ahay 8 mabaatiyaas ahay jimcana laguma tukan jirin jimca marka la gaaro waa la xiraa waa laga taga waxaa la aadaa toonka 78 kaa nin sheekh xuboy la yidhaaho kuweed haas imaaday midkaan 8 oo dhagaxa sar ka dhisi sheekh maxamuud samtig xuboyna la yidhaah xoogay lacag bixiyo dhagaxa saytar ka dhisi kulli mabaati ay ahaayeen mana lagu tukan jirin oo jimca waxaan aadi jirnay meeshaan la yidhaahaa sheekh majengo oo idaba iska qaraaban oo arkaysiin oo qaadka lagu cuno ee jamay ma iska naadi jirnay jimca inta ku tukan intaan ma dhameen intaan maba dhameenba hadda waxaad arkaysaa masaajid kastoo magaalada koorada lagu tukana bifadlillahi wa biraxmati ummadda ku tukan ummaddan waaye waana yacni ummad wada sunni ah oo ilaahay xaqiisan gudata rabta horta taas waa wax ilaahay loo mahad celiyey culimmadaan ugu mahad celinaynaa aad iyo aadaan culimmada idinkugu mahad celinaynaa waxaa kale oo hadda berihaan soo baxay meeshii shiddo ka jirtoo dhammaalaba haddaan loo helin culummo shiddadeeda ma hagaagayso waa shiddadu waa soconi annaga hadda reer madheera alxamdulillahi rabbi alcaalamiin waan ku xiranahay culummada gaarhaas wajeer way ku xiran tahay waa run laakiin annaga hadda waxaan ka dhigannay xaakimaan ka dhigannay waxyaalahan isku qabsanna kulli sidii kitaabka ilaahay loo dhahay hadday intay kitaabka ilaahay iskugu soo noqdaan yani kuma rumaynin si loo yidho kolooto hadda wixii aan isku qabsanay kulli xaakimaan ka dhigan wajeer madheer wajeer gaarhaas waxaan u sheegaynaa ayagan waxyaalaha hadday saddex maraan culimmada aanayta noo joogto alxamdulillah ka faa'idaysan xaakimaan ka dhigana waana kala hagaagaynaa camalkeennana waa hagaagaa intaan taasaan ugu baxaa iyo mahad celiskii waxaan idiin sheegay waxyaalahaadna farteen kulli waan yeelaynaa waana diyaar alxamdulillahi rabbi alcaalamiin waxaadna farteen meesha aanaytu in loo baahan yahay strategy point ay ku taalla wixii loo baahan yahay oo masaajidkan facility oo ugu horreysa meel miidku lagu dhaqo waa la raadinaya waa diyaar insha allahu waa la qabanaya waxaad noo sheegteen inay masaajidaha inaan loo tutuugsa ay habbooneen oo handaa la dhise electricitykiis iyo shaqaalihiis iyo imaamkiis iyo kulli waa diyaar alxamdulillahi rabbi alcaalamiin weliba waxaan filayaa inay lacag u dhigmi doonto waxaa alxamdulilah waxaa la yidhi wadaadka oo afaan oo waxaa tiri kolkaad sheekoo qur-aan aad u macaan akhri bannaan kasta waxaa tiri waa burri soomaalida hore waa burri jirtay maxaad u bururtaa la yidhi walaalkay waxaa saqaanaa la burraa tiri labadaasna waa isga rafadhin ilaahay khayr ha siiye sanduuq waaba diyaariyeenba sanduuqu waaba diyaariyeen xaaji maxamed macalin kulmeye horta kor ma istaagta dad salaam calaykum ma dhihi kartaa bal salaam calaykum dhehbal ha ku arkeene ninkaasayto xaaji maxamed macalin kulmeye la yidhahaa waa ninka yacni masaajidka anayto aniga isaga aan dhulka lahayn laakiin ani waxaan dhahay war gudaha laga dhisay waa diiday waxaa isiri shacaartaan qarinaynaa hore aan geynay waa raay fiican ay ahayd waa waxaas maanta ku faraxsantihiin khayr allah sii sanduuqan waaba u diyaar lacagta badaxdiisa waxaa fadhiyay masaajidka jeemankiisa oo hadda jeeman masaajidkan ka ah inaad jeemanka aqoon waayideen oo iska tagtiin waaba waxay leedahay yani guray maxay la beri masaajidkan u baahanaysiin ama si aydin baahan doono xaaji cabdisalaad khaliif waa masaajidka jeemankiisa waaye bacdi insha allahu sidaan hadda ku tashanay sanduuq masaajidka waa iska diyaar loo tuugsani ma
bal waxaaba lagu saaciidayn doonaa kuwa kaloo laciifyaaba lagu saaciidayn doonaa maogi loo toogsan maha insha allahu hadday ta ilaahay ku ahaata warku waa idinkugu dheeraaday sheekh wuxuu leeyahy duca nooga khatin laakiin waxaa iga mudan oo aad iyo aad aan u jeclahay muftiyaalka meeshaanayd fadhiya haddaan hortooda ani ku duceeyo on garab garab leh maxay noqoni ustaad maxay noqonaysaa ma saasaa ahey magan alla jeesa kalla aadeed wixiin horta aan gagafe iga raallihaada waa yeelna waa noqday codkaygan waa iska gaaban yahay alxamdu lilahi wahanaa ullahi wasalaatu calaa rasuulillaah ilaah wadaanku tuugna tuugtahay naqbal ilaah taladayna toosi ilaah tuugtahay naqbal ilaahayow inta meeshaan isugu imaada cafi ilaah inta meeshaan isugu imaada cafi ilaahayow waalidiintooda cafi ilaahu waalidiinta kaloo sii dhashay ilaahu cafi ilaahayow nulba meesha ay kurbada ka hays adigaa kaashafad kurba ilaahu kurbada ka daji ilaahayow nulba khayrkaas kaadna dhina adiga ahaayo qasandaada buuxdooy baroobayna ilaahu khayrkaada ku deeq ilaahayow nin walba meesha ay kaarkaas ugu taagan yahay asigaa garanaa adigana waad garanaysaa ilaahu kaarka ka fuji ilaahu adaan ku tuugnaa tuugtahay aqbal ilaahu taladayna toosi ilaahu saankaan soo soona naga aqbal ilaahu salaada tiin tukun doona naga aqbal ilaahayow adaan ku tuugnaa sakaraadka nagu dhibin ilaahu siraadka nagu dhibin ilaahayow marka qabrigaa sayid laysgeey mugdigahoo malaa'igtaa sayid aan naxariisanayno garuumaa wadagta ilaahu ay madax nagala dhicin ilaahu naxariistaada noogu furo ilaahu naxariistaada noogu furo ilaahu allahuma habitnaa bilqowl thaabit ya allah ilaahu qowl thaabitna waafaj ya allah ilaahu adaan ku tuugno taladayna ku tal saarna ilaahu talayna toosi tawakalna calayka ya allah ilaahu adaan ku tal saarna ya allah qulta qowlka alxaq waman yatawakal allah yafaahu xasbuhu ilaahu xasbigaa noqo ya allah ilaahu adduunka aakhirana ilaali ya allah ilaahu culmadayna noo dhowr ya allah ilaahu waxay noo sheegeen oo qur-aanka oo macaanka badan oo xadiis ilaahuna raac ya allah ilaahu raaxidiisa nagu irsaaq ya allah ilaahu kibir isweyn hana gelin ya allah ilaahu kibir hana gelin ya allah ilaahu faqarada ee masaakiinta loo jecelsay ya allah ilaahu qowlka culadan jecelsay ya allah ilaahu siyaasayntayna miday ya allah ilaahu dhaanidayna miday ya allah ilaahu kii facebook wax ku qoray ilaahu waas khayr ku qoray ya allah ilaahu wax cul ku qalqaalin ya allah ilaahay walaan ku tuugnaa annaga tirs isla gaarina adiga tawaab wax walba ay ku koobihiin ilaahay inta khayr rajayno baan khayr siiya allah ilaahu karoon naga qaba ya allah ilaahu karfanteena laga faan ya allah ilaahu karoon nagu dilin ya allah ilaahu waqtigiisana dilin ya allah ilaahu geeri laga ma farsanay geeri ka bacdan aadam ya allah ilaahu hanoo caroonin ya allah ilaahu hanoo caroonin ya allah ilaahay oo annaga nadiif manhin ya allah ilaahu adiga dhahay raxmadayda ka waasi ahsan dambigiin ilaahu adiga yar wasi'ata kulli shay rahmatan wa ilman ogaantaada ee raxmadaada waasi'a ilaahay oo nagu cafiya allah ilaahu nacafi ya allah ilaahu nacafi ya allah ilaahu umdayna raaci ya allah ilaahu waxayna sheegaan irzaaq ya allah ilaahu imaan diinu irzaaq ya allah ilaahay oo waldaba ka dulaahan dhig ya allah ilaahu dhigtayntii wax weelaysad ka dhig ya allah ilaahu qalbigaayntii khaash ka dhig ya allah ilaahu lisaankayntii daakir ka dhig ya allah ilaahu jacayl hadayna dhig ya allah ilaahayow jiiraankaayna waa isdhibi haayaan ilaahu nabad dhexdooda dhig ya allah ilaahu nabad dhexdooda dhig ya allah ilaahu nabad dhexdooda dhig ya allah ilaahayow wixii kaa rabo ku tahay ilaahu ka bixiya allah ilaahu adaan ku tuugni ya allah ilaahu talayna toosi ya allah ilaahu adduun aakhirana maneela ya allah ilaahayow adduunkan kurisan nugu fallaxayn ya allah ilaahu aakhirana nugu cadaabin ya allah ilaahu carabka culamadayna noo aqbal ya allah ilaahu carabka culamadayna noo aqbal ya allah ilaahu siyaasadayna toosi ya allah ilaahu annagana kuwa khayrka raaca naga dhig ya allah ilaahu khalaaf dhexdayna kor ya allah ilaahu adaan ku tuugni ya allah tawakalna calayka ya allah توكلنا عليك يا ربي وصلى اللهم على سيدنا محمد وسلم مساجد الشيخ فرع امين يا رب فرع بالك مش غير معي واش ليه مسايك والف ان شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله تكبير الله تكبير الله تكبير الله ما شاء الله مسايكين ونورو فريسي وفيشل الله فري هذه هذا ما سنتين قيستو فورا مشروع هذا مرة شيخ هاني شيخ أمل دكاترة علماء الأضياشة دليرت كل هذا ما سنتين مسايكين الله سبحانه وتعالى هنو بركة هذا كمان الصلاة مسايك وفيشل الله فري صلاة عصر قالوا تكون دورها مساجد إن شاء الله تعالى سود هذا مرة بعد مسجد هذا خياري سود هذا جزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.